السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوى هذا دمانتين ملك استاد شوكتان كالي يلا سوى هذا إن شاء الله. هاي دا حي إنو ساميرنو دول كنابات كوشوغني دمانتين استاغو ريريا دا ديكيناني إنا ساري ديغو داما إياد بشيدهو أيوة رزاسريدا دما يا دشيدا نمو أيوة رزاسريدا يا كاديتشو تدعيغو كاديتشو جمايا كاديتشو أقولا دي مشادا أينو دالا دهانده أقولا ميديكاني ماذا حبلها هيني لغوريه أقولا جمايا نيماذا يا شرفتينو كورا نقطة انت غيرك كلا كزيار دايزار على يامله عوا كرباش كادونكا والمجرتني يا لقبويا هستي يا هايدي لو كسو كل كرباش هستي لو كسو كرباش يا بيلها قوي وقلاده دي مشدا اينو ها دلد اهانه وقلاده دي مشدا ديبتو هينا ديسه وقلاده حبلهينا inaad guursataan aan dulbiga ka baxnay وقلاده دي مشدا ما garanaysaa hablaha beelaha kala Soomaaliyeed aad isku qarinaysaan iska daaya وين شير جرسان إنكو شير جريم ويا ولا يريد حمد هني ودكته كرباش كي أدونكو قف كستر وان سوق بريا ما فهمت لما كلا حراقة ما نبى ميل بيك شيطان تهي حوجا بريها وانا حي واسكو عديني ولا كدعي بريها أنت حوجا واسكو واسسيد ده إنه مركب مهتسنتين هستن دارنا إن شاء الله عاوز صدق موبايل بيك شيطان تهي بدوان ككتشرا بدواننا عيقة حرق قريق بدنا بقرطاي أوكي وحنا داريا هستي أتقانتين يا تن هذا إنه شيء أوغلادا دمشادو يا أوغلادا هبليه هنا إن تقولستان أتكوفانتان أوكي زيدا هاي محوري فلسطين بدك أحبي كارا هلا دعيان ونا نبرة ضيقان إريدا سوحي كمديين هيستا كادو شعلوو إريدا يلحن كي موسيقو يعطكبو الفنان حامد ضح هستا waxay soo habeeyay oo waqtigooda u huray ururka amuda wan dhageysi haboon لما تجري دمربي نلا شدانتاي لقاشي مربي كاين دركتو حاراني هداد لما تجري دمربي نلا شدانتاي تقاشي مربي كاين دركتو حاراني iyo dhawaaqaygu wuxuu yahay dhalintii dadkaygu miyaydan ka dhiibin dhibaatada dadkeeni lagu dhibaya ma xasto marna aan dhammaanay dhumucdayda hadalkiyo dhawaaqaygu wuxuu yahay kadidin dhibaatada dadkeeni lagu dhibaya
ما حسته ورنا عندماني راحين سميرنو وكنابا كوتشوكني لما تنستاغو هريا ديجيناني إن سار ديجا أو تمعي تبشيدا أو غير رصاص ريدا تمعي تبشيدا أو غير رصاص ريدا حين سميرنو والكنابة كوتشوكني لما تنستاغو هريا ديجيناني إن سار ديجا أو تمعي تبشيدا أو غير رصاص ريدا تمعي تبشيدا أو غير رصاص ريدا Kaducho olo kaducho Kadicho dadkaygo kadicho Ogolada dhimashada dhibtu hayna daysi Ogolada dhimashada aynu dhibta hilmaane Ogolada dhimashada aynu dhibta hilmaane Ogolada dhimashada dhibtu hayna daysi Kadicho olo kadicho Kaducho dadkaygo kadicho Ogolada dhimashada dhibtu hayna daysi Ogolada dhimashada aynu dhibta hilmaane Ogolada dhimashada aynu dhibta hilmaane Ogolada dhimashada dhibtu hayna daysi Shahada kiyo dambal kaygo xusido
sageen dayamahi waa dhabe dhiigiyo marna la rogo falastiin ba dhagax way kaaraha la dhacaya waa gabaradaya kaaraha la dhacaya waa gabaradaya ninka dheesha mugdo arbaaxada la sageen dayamahi waa dhabe dhiigiyo marna la rogo falastiin ba dhagax bay kaaraha la dhacaya waa gabaradaya kaaraha la dhacaya waa gabaradaya kadhijo dadkaygow kadhijo kadhijo colowow kadhijo kadhijo colowow kadhijo oggolaada dhimashada dhibtu haynadaysay oggolaada dhimashada aynu dhibta ilmaane oggolaada dhimashada dhibtu haynadaysay oggolaada dhimashada dhibtu haynadaysay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالك استاذ شوكتان ومدى صوماليات كالي يلا سوى ذا دوادا وولاشن حمتك القاعد أو كهذا شاء الرماها رنتا حضيرة دانا صارتا مربا براها بلشدا وحي كعصب يا وحي مقارنة إسايي لا ظلم لا أنا وحي قفكي لا ظلم يا وانكا عاموسي مايا وانكا حد ليا وحالينيها يا لبا فيديو فيديو منا ويهي markii gabadha la doonay oo reerkooda laga doonay oo si sharaf leh oo ma garanaysaa maamuus leh loo doonay oo la siiyay midna uu yahay ninka beelaha gabooya ku aftirsada nimankana ka baxay 3 sano ka hor oo ma garanaysaa beesha ma jeerteen amba xajile beel ka tirsan laf ka tirsan sheegtay xilligu ka baxay gabooyanimada iyo xilligii ma garanaysaa uu Puntland tagay xoogaa bariyahan farahan iska qaaday naag madooban heeltay iska gadul qaada fara madoow hadan saa inuu soo dhaw xoogaa xitaa waa naxay iska shiday waariyaan marka ala kulli xaal waxaan ka hadlayaa waa rima labadii video waan inii daaraya hadii hay nafta inoo daayo lambar 1 waxaan daarayaa odayga Soomaaliyeed oo aabaha Soomaaliyeed ah inantiisa si sharaf leh oo maamuus leh magaalada Gaalkacyo amba Puntland ugu bixiyay inantiisa oo ninka ku siiyay videogaas bakhaartigu inoo noqonaya sida aan maanta ku arkay baraha bulshada rag beelaha kasoo jeeda daarood laakiin ma aha ma jarteena ma aha ogaadeenna ma aha dhubahantana ma aha waa beesha maxaa la dhahay warsangeli nin kasoo jeeda oo fataax la dhaho fataax shiro faarax oo YouTube kiisa doonaya amba Facebook kiisa inuu ku kala kiciyo soo galay leef yiri wiilka tumaalka ah inanta la baxsaday xabdi galgacal walaalkeed weeyaan hada anigu gabadh ma dhibaan haysadno waa nin adeerkay waa nin tumaala waana in adeerkay haduu la baxsaday waxa weeye hada waxaan beeninayaa wuxuu yiri gabadha uu la baxsaday waalidkiina muu sheegin lambar 1 waxaan beeninayaa ummadda Soomaaliyeed la tusaya inaan videoga inii daaraya aabihi ilmaha dhalay oo si fiican u hadlaya laakiin videoga waa video Gaalkacyo ka dhacay hotel Gaalkacyo ah si sharaf leh sidii gabadh Soomaaliyeed loo dooni jiray oo gobtu dooni jirtay ka daranba aan u doonay oo loo siiyay laakiin maxaa meesha timir baali timir lefa ku jirta maxaa meesha ku jira markaas oo markii horena odaygu sidan u leeyahay haddana uu isku bedelay waxba jirana waa inaan indhaha runta u sheegnaa walaalkeen marka videogu waan inoo daaraya insha Allah asoo ma garanaysaa ma sha Allah u joogo ma garanaysaa halkaayo seewaya way videogu waan inoo daaraya insha Allah codkana waan inii furaya iyo dulqaata waynikaas ya caadi ma aha bay nagu yiri caadi ma aha waayahay beeshkayga xinti galgacal ayaan soo dhignay waliba leef ka soo dhigay mobilkana GPU ku fiican yahay milaasug سوق موبايل كنا نشوفيه وفي عين أنا بعتين حلا كسان سوق موبايل كنا نشوفني يس فيديو بينا أنت شرف لما كانوا دوني لا دوني ويان مركي لا دوني ويان يلا سعدا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر لا يركيسا بدن بنو ملينيا لا كما يريا اوكي انت قرانك اخرنيو شو كنت قرانك اخرنيا لا كان يرينيا وكان وتواصوا بالحق وتواصوا انا عقلي بلا حسيت احنا اخرنيا رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين لا دعوه الله سلامه يا مرت شرفت كسو قيب كشي حفلة قيمة halka waxa isugu nimi arin meer
magacay waxaa la yihahdaa kaarshe axmed gallan anigoo ka socda beesha cali xijiijile maxamed noolays waxaan beesha cumar maxamuud ee reer mahad aan ka codsanaynaa inayna siiyaan gabadha magaceeda la yidhaahdo nasteexa jamaal faarax aadan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. martida kala duwan qaybaad kala duwan waa salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa moodaa in lay gaaday oo anugu gabar xaflad lagu taagin inaan ka qayb galan mooye inaan meelaha ka tago warar idaacada ka daldala keliya gabadhan waa aabihii dhalay gabadha la socda intiina nala ogaada mooye waa aabihii gabadha dhalay awal baan badiyey aan siiyey suudaanka iyo beesha tan hadday wuxuu laba beelood buuriyo beesha iyo reer mahad laakiin ma aha waa beesha idinku aad ka socotaan iyo meesha aan idinkala simannahay magaraysaa maxamed xajijle la simanna halkaas weeye waxa gabadhayda siiyey waa maxamed xajijle weeye waxaa kaloo goobjoogka iyaguna waadi kara artida jooga adigu kula aymulayaaasada xajijle raggalaas laakiin meel kasta oo ka mida puntland waa soo casbo ii joogaan meesha dhulbaanta waa ku okay dhulbaanta xitaa waa fadhiyaa meesha maasha allah waa meel la iskugu wada yimid tolkoo dhan iskugu yimaadeen waa good waa fiican yahay haddaba odaygaasu marka hore gabadha wuxuu ku bixiyey inuu ninku yahay nin daarood ah amba nin ka soo jeeda beesha ma garanaysaaye cali xijile nin ka soo jeeda ayuu inantiisa ku bixiyey dib haddaba maxaa dib iska bedelay waxaa dib iska bedelay odaygu soo ogaaday ninku qabiil ku yahay hore waxaa loo yiri soomaaliyey haddii magarasa diinteenu islaamkana ay qabtay amba sheegtay saad ogtihiin haddii ma garanaysaa gabadhaada aad bixinaysid ninka aad siinaysid diinteenu islaamku waxay qabtaa inaad nasabadiisa ogaatid waa sax waa hadal sax ah anigona ma garanaysaaye anigu aan maanta uma hiilinayo beesha gabooye laakiin wixii dulmiga ku socda aniga waan ka hadlayaa beeshaydana waan ka hadlayaa beelaha kale waxay ku khaldan yihiin waan sheegayaa ninka anaga beeshayda kasoo jeeda beesha gabooyena wuxuu ku khaldan yahay iyo nafsiga haya nafsi wax jira wax ma garanaysaa nafsi wax la dhaho ayaa jira nafsi baa haya ninka haddaba gabadha walaashiiyo tumaalu soo xumeeyey ma ila socoto caruurta xitaa kasoo qaatay taariikhdooda kooban baan ini siinaya iyadana okay waxaan inoo hayaa ninkan suldaanka ah wuxuu yidhi 3 sano ka hor suldaan baan ahay waa nin gabooya hata waa nin beesha tumaaleeda waa beesha ugu quruxda badan leh beelaha gabooye marka dhexdooda aan anaga dhexdeeda aan isku amaano runta markaan kuu sheegno waxayna dhahaan quraysh ban kasoo jeedna maasha allah tabaarakallah waxa weeye waad aragtaan arrimuhu say u dhacayaan ninkan wuxuu sheegtay markaa beel ka mid ah beelaha daarood ama beelaha maxaa la dhahaayay almajeerteeniya wuxuu yidhi waxaan ahay nin xajile ah suldaankii waxaan ahay buu yidhi beelaha xajile sidaa daraaddeed ninkan wuxuu joogaa saad ogtihiin ostri waa wadan yurub ka mid ah ma garanaysaa ninkana nin dhaqaale haysta lacag haysta weeyaan waxa weeye markaa ninkanu qabiilkiisii buu ka faanay uu ka orday sinjigiisii buu qariyey diinteenuna waxay sheegtay gabadha markaa aabaha dhalay oo inantiisa uu siinayo inuu ma garanaysaa uu meherinayo ama uu bixinayo inuu ninka u guursanayo waa inuu wax badan ku eega amba gabooyanimaha u haato hadhow ha u eryado waa inuu qofka sinjigiisa iyo wuxuu yahay nasabkiisa waa inuu sheega nasabadaada aad tahay markaad adigu sheegatid warniyow ma lagugu faquuq mise laguguma faquuqin war ma karayna cali xijilaba naga dhac cali xijilanu naqaana anaga beesha uu sheegtay hadda niyow nasabadaada inaad sheegatid bay ahayd maanta ta kugu dhacday kugumay dhacde 3 sano ka hor ayuu ninkan wuxuu sameeyey ololo ah ma garanaysaa beelaha tumaaleed inuu kala jajabiyo uu dhaho beelihii tumaaleed cali xijilaan nahay waxaan galnaa ma jeerteen tumaaladuna saad ogtihiin niman sida maanta daarood markay leeyihiin anagu carab baan ka nimid nimanka dhahaweyn anagu carab baan ka nimid inta anagu aanu leeyahay naag ma dhibaanan oo maxamed gargaartaan gala muusuhu waa niman dira ayagu ma dhahaana niman waxaanu nahay biritisha oo la yaqaano ayaan nahay bay dhahaan okay ninkan markaa wuxuu tagay Puntland buu tagay markuu leeyahay aabahan inanta horaan u bixiyay waa runtiisa Puntland buu tagay suldaanimada markii loo calan saartay wuxuu yiri qabiilkaasaan hay dadkii ma garanaysaayay qabiilka ka dhashay baa markaa ajirada soo duubay asagoo la nin tumaalo gabooyaa tahay annaga nama sheegatid warniyow Facebook baa la kala jabsan jiro ciwaan baa la kala jabsan jiray maanta ma qabiil baad jabsanaysaa qabiilkaaga ku eekow ayaan inoo daaraya ila dhageysta insha Allah waa ila socotaa Soomaa
وين هذا وقعت هذا برورته ماشي كقولون سنتاي arrintan oo kala ka soo qayb galaysaa meel lagu hayo isma lahayn wala kaysa laakiin ilaahay baa saamahayo waa arkayo meel basheekeen iyo tumaala lagu kala gurayo waa in maanta aan arkayo oo leeyahay waxay ku sheekeen okay khadka wax yar xakan ka dhaqaaqaya waan ni dhameystiraya haduu ilaahay nafta inoo daayo ninka sawirkiisu waa ka si fiican u eega video markuu hadlaya waa ka suldaanku waa ka sawirkiisa lagu soo dhajiyay inuu yiri anigu waxaan haynin ma jeerteena oo ah cali xajile beelihii ma jeerteen ama beelihii daaroodna ay soo istaageen iyaguna social media ay dhahaan nimatihid nimana matashid meel lagu kala gurayo anigu maanta ka hor uma arag uu yiri waxa weeye ma aha inaad arsinjigaaga iyo waxaad u dhalatay iyo ilaahay haybadu ku siiyay inaad ka tagtid ma yahay waad aragtaan fiidiyoyadana waan inii daaraysaad la socdo khadka wax yarkan ira daciifka ah uu intuu hagaagaya insha Allah waad aragtaan haddaba maxaa sheekadan maxay tahay haddaba ninkan muxuu odaygan aabaha ah oo beesha ka soo jeeda ma garanaysaa ee almajeerteeniya maxaa marka uu soo gulo gubanaya hadda muxuu Facebook uga ooyaya muxuu markasta ilaa friends wiilaya odaygu ma fahanti muxuu Facebook uga office wariso ooyaya uu soo dhigaya waxa weeye dhibaatada waxay ka jirtaa runta markaan inii sheego baruurta meesha ka qudunsan tahay jeer la taabto war farb waxa nin bay meel bogtaaba leeyahay war dulmi doona maxaa war dulmi diido dulmi doonaha noqon war gabadhan waxaad ku doonatay inay maxaa la dhahaa inaad nin xajila tahay war gabadhan waxaad ku doonatay nin ma jeerteena inaad sheegatay laakiin matiida waxay ahayd inaad ku doonatid adigoo nin gaboya ah oo midgaan ah oo tumaal ah oo la yaqaan oo taariikhda xusto oo ninkii dagaalkii xilligii magarasa 77kii halyeeygi Soomaaliyeed iyo maxaa dhahaa ku faantid bay adoo doontay gabadha Soomaaliyeed ma fahmi kartaa ragga anaga naga dhashay gabooye dumarka iyagu waa la wada qabaa maanta haddaan dhaho Soomaali marka runta ay nii sheego qabiilada ugu badan oo hablaha gabooyaha qabo waa ma jeerteende war imaade real run han isku sheegno wallahi run markaan isku sheegno waa ma jeerteen iyo hawi ma ila socota wax aleelahay waxa soo raacan nimanka maxaa la dhahaayay maxaa la dhahaa dubahantiyo nimanka maxaa la dhahaa waliba dubahantana waxa kaga badan nimanka ogaadeen war waxa weeye nin kasta gabadh kasta qabiilkeeda ma qarinayso way ku faanaysaa gabooye ah maxaa adiga isku dilaysaa isku bahdilaysaa oo dhulka isku jiidaysaa oo qabiilkaaga ugu ordaysaa muxuu ku dheeryahay maanta qabiilka kale lacagtii kaaga baxday hantidii kaaga baxday 3 jeer baad gabadha qarash ku bixisa waa doonta waadana hotelkan aad ku doontay iyo xafladahan iyo adduunkan aad u dhigtay waan aragnaa umaduna way aragtaa qarashkeedu ma yaro marka la joogo Nairobi marka la joogo waa qurbanacs lambar 2 aras baad u dhigtay yadana aad u soo xidhay adigana aad soo xidhatay mariya caadi oo ma garanaysaa African dress aad sida u xambaarsid gabadhii araskan bil ka hor buu ahaa araskan bil ka hor buu ahaa maxaa hadaba barihii bulshada hadda soo istaajiyay aabahan soona istaajiyay iyaguna ninkii beelaha gabooye ka dhashay qabiilka kale isku qarinayay adigu calaa kulli xaal 3 sano ka hor ayuu ka baxay qabiilkiisa san videoga inii shiday 3 sano ka hor buu qabiilkiisa ka baxay videoga saacadaynaya sawirkiisana waa ka ku dhinac dhigsan waad maqlaysaa arrintan oo kala ka soo qayb galaysaa meel lagu hayo isma lahayn wala kaysa qof kasto ilaahay baa saamahayo waa arkayo meel basheekeen iyo tumaala lagu kala gurayo waa in maanta aan arkayo oo leeyahay waxay ku sheekeen waa 3 sano ka hor video dhawaan waxaan maqli jiray waayada internet iyo aalad soo korodhay waxaa la jabsaday shirkad baa internet-keedii la jabsaday iyo dowlad baa la jabsaday waad maqlaysaa afku kuma go'an ku leeyahay adeerkay wuxuu yiri waxa la maqli jiray shirkad baa la jabsaday amba magarasa Facebook baa la jabsaday maadaama shirkad baa la jabsaday Facebook baa la jabsaday maanta waxa la arkay ayaamaha dambe buu yiri qabiiladii Soomaaliyeed oo la jabsaday waa runtiisa qabiilka gabooyaha ka ordaysa qabiil kale aad isku dhajinaysa qabiilkaaga u dhalata sharafkii cisiga karaamada ku lahayd baad ka ordaysa okay waxa weeye 3 sano ka hor
ninkan taariikhdiisa idin soo bilaabaya wiilkan aan beesheeda ah taariikhdiisa number 1 idin soo bilaabaya halkaasan markaa ka soo galeynaa guurkiisa iyo xaaladiisa sida hadda loogu kacsiyo sawiradan baraha bulshada soo dhigay ninkan waa nin tumaala wuxuu ka soo jeedaa magarasa wadanka Puntland buu ka soo jeedaa maamulka Puntland buu ka soo jeedaa amba dawladda Puntland buu ka soo jeedaa muddo magaranaysaayay 8 sano mise 7 sano ka hor ayuu qurbaha soo galay wuxuu qabay gabadh in adeertiya oo tumaala waxay u dhashay 3 ciyaala wuu soo tahriibay istari buu soo galay markuu wadanka soo galay nama istari baa la mise istari bay gadhay ayuu soo galay maadaama wadanka soo galay ninkii waxay is jeclaayeen gabadh delshisha waa qabiil kamid ah filaya isoo daaroodkii gabadhaas is jeclaayeen waddankiiba iyaduna joogtay dacwad buu furtay wuxuu waxaan rabaa ilmahaygii hooyadood in la keeno gabadhii in adeertii ahayd hadda nafsiga hayaan inii sheegaya gabadhii in adeertii ahayd saddexda awlaada u dhashay wuxuu sameeyay booskeedii wuxuu geliyay gabadhii delshisha ayadina uu fura markii wax kasta ay soo dhamaadeen oo interviewga Ethiopia la keenayo ma fahmi kartaa ayuu gabadhii furay beelaha gabooyaha in adeertii hada tumaashahay caruurtaydina waan rabaa waan qaadanayaa buu yiri tolkiyo dadkii baa liiri maadaama adigu aad kala tagteen waxaad samaysaa ilmahan si ilmahaagii aduun bay ku dhoofayaan ilmahaas ilmuhuna waa ilmo yar rabiyay ahaayeen xilligaas gabadhu qabay marka wad ogtiin interviewada marka la marayo qofka qurbaha jooga dhiiga laga qaada aabahan wuxuu ku dacwaday gabadhan anaa qaba ilmahana anaa dhalay okay dhiiga umar baa hadaad ilmahan adigu dhashay dhiigiiba sidoo ugu maray ila waa ninka dhalay ilmihii laakiin hooyadii maaha hooyadan ilmuhuna ilmo yar yar bay ahaayeen ma ila socotaa sida ayaa lagu soo qaaday gabadhii qabiilka dalshisheeda wali saxa hadan khaldanay dalshishi qabiilka la dhaw xoogaa waan yarada ya marka qabiilka dalshisha la dhahay ahayd ma fahanti dalshishadi ha dalshisha bay gadhe ma dalshisha bay gadhe qabiilka ha dalshisha waa saxan leedahay dalshisha qabiilka dalshisha la dhahay okay gabadhii waxay soo wada galeen marka meesha nimika maxaa la u joogo suldaanka ninka suldaanka sheegtay meesha joogo soo galeen 3 ciyaala ayna iyagu dhalin oo hooyo kale oo maanta Afrika ku silcaysa ilmaheedii laga soo qaatay oo ninkaas ka soo qaatay markii qurbihii yimidna yadii furay calaasha naagtan gabooyuhu bahdilaya naagtan kale qabiilka kale ilmoodiyo inuu jannada ku galayo sidaa daraadeed uu inaadeertii oo laxmiya u furo ma ila socota oo waliba ilmihiina ka soo qaatay booskeedii xitaa inuu gun yahay oo gun dhashay yahay ilmihii hooyadii dhashay xitaa kuma soo qaadin war maanta ilmo kasta hooyadii waa u baahan tahay waa dareemi kartaan hooyadii dhashay xitaa oo inaadeertii ahayd xitaa ilmuhu uu muudaynin xitaa ilmihii kuma soo qaadin naakalu markaa guursaday oo maxaa dhahay qabiilka dalshisha asan inii sheegay wuu keenay magaalada deganaa markuu keenay gabadhii iyadoo 2 caruur u dhashay uurna u leedahay baa lagu diray sida maanta loogu diray xaaskan uu hadda Nairobi la raaxaysan iyo haysto marba sawir igu sawir halkan wati nin sheekha amba wadaada amba suldaan amba isin da waxaan ma sameeyo marka runta isku sheegno nin isin limaada reeyala waxaan ma sameeyo anagoona isin nahay waxna nahay ba sharaf dhac ma ogolina banaanka nin la saxseexdo ayadana sibay tahay gabigeedaba ma jacayl baa qaaday mise lacag baa qaaday ilaahu waxaan isku sheegnay ma ila socota adu ala kulli xaal ninkana nafsiga naagti ilmiheeda ka soo qaaday inaadeertii ahayd ayaa haya wuxuu sameeyay gabadhii iyada uurna u leh laba ciyaalaan u hayso ayaa lagu diray imaadarhadeed iyo tolkeedii dadkeedii baa iyadana ku diray sidan oo kale loogu shibarwaaqay ninka marka iyadoo naagtu qabu joogu sheekadan baa bilaaway sulbaan baan hayo ma garanaysa afhayeen baan hayo sidan baan hay gabadhii waxa lagu ninkan waa nin midgaana waa tumaal ninka ku qaba waa dareemi kartaa qof dumara qalbigeeda adeer waa nin raga hadaa tahay jeexagan waxa weeye waxa la walba kadaloob dumar oo nin raga kaaga dambeeyay walba ka ku ogeyd maaha ma la socota fadlan igu shubo weeyaan dumarka Soomaaliyeed ay u badan yihiin naag waa ninka qabada qabiil mare ma fahmaysa marka ala kulli xaal gabadhii ninkii wuxuu sameeyay waa laga kaxaystay markii laga kaxaystay dawladii marka wuxuu yiri carruurta saddexda waaweyn ma garanaysaa iyadii ma dhalin 6 ciyaal isku kaxaysatay gabadhii uurkii iyo 2 ciyaal 5 ciyaal isku kaxaysatay dirida ayuu istaagay dawladii carruurtaas wuxuu shaqeeyaba saguun baa lacagta looga gooyaa markii dambe wuxuu sameeyay wuxuu ku dacweeyay ilmahan inaan iyada u dhalin ma ila socota ilmahan inay saddexdan iyadu dhashay saddexdana gabadh hore ka dhimatay ay dhashay usaguna marka dacwadiisa waxay ahayd ilmahan aniga dhalay naagtan aniga qaba iyaduna marka ilmahan anaa dhalay ayay isku qaadatay ma ila socota sidii baa ilmihii loogu soo celiyay ninkii saddexdii gabadha gabooyaha u dhashay ayuu haystaa waa oday singar maadir
sorry waa single wheel ba ma ila socota carruurtiisa iska korsanay suldaannimo qabiil kale waxaan la fahansaneyn daboorday wuxuu sameeyay 3 sano ka hor buu gabadha reerka ka doontay waad aragtay fiidiyooguna waan inii sheegay sida wanaagsan uu u doonay de muxuu ku doonay inuu yahay nin ma jeerteena de muxuu ku doonay inuu yahay nin maxaa dhaha xajile ah de muxuu ku doonay inuu yahay nin suldaan ma ila socota sida daraadeed odaygii miskiinka ha galgacyo joogay inantiisi uu siiyay waad arkaysaa inuu shirka u soo fadhiisto telefoon u qabsado inantiisu ku faraxsanaa markuu ku faraxsanaa muxuu ku faraxsanaa danin in adeerkeeda siiyay dad muxuu ka soo ogaaday odaygii ninku inuu nin yahay ma garanaysaa ee tumaala okay nin tumaala maadaama uu yahay oo ninkii tumaalka haba wuxuu waxaan rabaa inaan gabadhii wareejisto Nairobi imaado aroos u dhigo wuxuu yiri adeero ma naga wareejistan sid gabadhii mana geydid nin gabooya baatay amba nin midgaan aad dhinac noo dhaafan nin tumaalaatay gabadhi waxay tiraaba ninkayga waan rabaa waana jeclahay de adduunkana jacayl baa xoog weey waalidka wala nacay jacayl waxa laga akii xaarkii barbarada loo cuniyay jacaylka wala sanadkan waa cajaayib wuxuu sameeyay marka cala kulli xaal waa laga kaxaystay marka aabihii inantii dhalay gabadhii iyada cagaheeda kaga soo raacday xamar bay timid saaxiib passport baa loo sameeyay diyaarad bay soo raacday ila nin bay meel u bogtaa ya gabadhii waxay timid adeer meel baa u laacayse gabadhii waxay timid Nairobi de saaxiibadii Nairobi waa taqaanta dadka Nairobi joogana waa taqaanta sida arooskii loo dhisay waa taqaanta de adduunkiisa waradan xilliga arooska bil ka hor buu arooska waxa hadda week iyo 2 week ma jirto ma arooska bil ka hor anaa daawada ninka saantu inanta u qaado ayuu gacantiisa xafka bas uga galinaysaa ninkan gabadha mu aroosku xayeysiinaya masaftada fartiga gelinay ma ila socota marka bil ka hor bay ahay ala kulli xaal wuxuu sameeyay ninkii beelahayaga ka soo jeeday qabiilada kale isku ruxayay qabiilada kale waxaynay war gabadha in adeertaaya aad yastay aad bahdishay aad ilmaheedii ka soo kaxaysatay aad ka faanaysid ma fahmi kartaa ayaa ku cawriday gabadha ayaa ku cawriday isheedii baa ku haysa ilaahay waxaan u bariyay ayadan laga furatan tan inay daarad ka furan oo maanta ma jirteen ka furan war gabadha islaamka ah markaad guursanaysid aabaheed waxa leeyahay ninka markaad gabadha ku darsanaysid waa inaad in maade reyaal runban isku sheegayna war anu qabiilkayga ma aflagaadaynayo aakhiran maanta biyo ma soo qaaday sorry biyaan caba marka daale aakhiran nacii ma gelayo laakiin runtan aniga ka hadla waxa weeye ninkaas ma gabooyo nimo gabadha ku guursay oo laga daba yimid ma inantu jeclaatay ma inan kan gabooyaha intu weydiistay reerkii loo diid war waan ka hadli karayaa markuu inan kisi sharaf la gabadhi u doonto oo loo diido de marka saddexaad uu la baxsan kariya diinta islaamka uma herinays laakiin qabiil kale ku doonanaya been baan sheegaya meherkaas waxa ka jira malaban anigu taagina waxa leeyahay inantaada markaad nin siinaysid waa inaad nasabkiisa waata nasabadiisu waxay tahay nin tukada ma yahay nin islaam ma yahay mid waalidka jecel ma yahay nin ilaahay rasuulkiisa yaqaan ma yahay okay lama oranti qabiilkiisa iyo midgaan iyo hebel oo lama oranin ma ila socota in aad adigoo tumaal ah adigoo gabooyo ah adigani maadeeradanhay ayay had inaad sheekadan gashay laakiin maanta sheekadu waa faraka bax kuumana hiilinayno run baan ku sheegayna reerka gabadhooda haddana imaadeerayaal waxa ceeb ah aabaha Soomaaliyeed oo ogol inantiisa ina xoog lagu arooso waa kee ma sheegi kartaa aabaha Soomaaliyeed oo ogol inantiisi shalay isaga bixiyay sharaf loo bixiyay laakiin been baa laga sheegay qabiil kale u sheegtay lama runtaas ku sheegno warani ma didilaysan runtan inii sheegaya ma ila socota aabaha Soomaaliya hooya dhashay inantan waa la soo kri tacliim baa la soo bara waa ad guri sharaf leh ku soo korta ma aha inaad ayar dad iska istaadan ilaa miyada isla wadwadi xasaasan saxayna dabta ku soo seexo waan ordayna ari xaalad iskaga dabayid waxa waa la iskaga dabayid saaxib adigoo midgaan oo dunka shaash ku leh inaad sheegtid baa qofka u horeeyo soo qabanayna insha Allah nigna koobiyan soo qaadanaya qofka u horeeyo nasiibkiisa fartaha soo taagto aad u badan tihiin shaargareeya barnaamijkan gaarsiya aabaha dhalay maxaa la dhahaa gabadha dhalan ku yara taabanaya intaan dadka soo qaban maadaama inanka inta ku karbaashay ilaa aad xun baan ka hadlay aabaha soo qabanaya aabaha waxaan leeyahay adeero inantaadu miyay ka fiican tahay hablaha kale ma jeerteen oo goorowe ninka cadaanka lagu aroosiyo kow miyay ka fiican tahay isheeg adeer miyay ka fiican tahay hablaha kale imaadareedeeda oo goorowe ninka cadaanka oo sagaal sano muslim aha 9 sano miyay ka fiican tahay hadii inan gabooya oo sharaf leh ay ku gashay waliba si sharaf leh 3 jeer la aroosay gabar 3 jeer la aroosay cajaayib ya arana 3 jeer hal mar anaga la guursan
ما يلا سقطة صدق جرب على راسي مركان لا يهاي حفلة وين بالله دقي مهركية وبريها أنت بالله برطي وحدنا الله دقي عروس حدنا هبيك كل عروس كل كنا كعصم بالله دقي ما يلا سقطة أوكي قفك هو الرئيس سوق بنيا أباها نملك كوخ الدنيا واحد تهاي إذا أنت سمرك ورش شرف لوسي ما أنت هذي شاكد ودبك وقاعد واحد يدري يسكو دعيه إنه هذا روس حنبارية ما يهاي إنه بشاش المريا أنا صادق ما يهاي لكن هذه خاصة تقوي مريا ما حد رمي لها مركب دليرتا بها السلام عليكم. ايوه كبراداس السلام عليكم. اي حالتك ورعتك سيكر باش ان شاء الله كوفيه صقطني ولا سوق هذا سو دواada ان شاء الله dadka waxa la yiraahdaa jiweel ku jira aad iyo aad baan mahadsantihiin wallahi hadda anaku nahay ururka jiweel anaku waxa weeyaan waxa leenahay beesha ma jirtay waa beel qaaliya waa beel aan ixtiraano waa beesha kaliya wallahi saraxada runta hadda isku sheegno daanu nimaadna war anigu ma dhibaan baanahay war anigu tumaal baanahay war anigu waxa la yiraahdaa yibir baanahay ana hadal lagu soo celin aad iyo aad aan u ixtiraamno aan u qadarno waxa la yiraahdaa noogu dhowba waxa la yiraahdaa beelooyinka kale ee Soomaaliya laakiin ninkan wuxuu ku dhaqmay wax insaannimo maaha wax basharnimo maaha waayo waxa weeyaan qofku waa inuu u sheegaa dadka uu ka dhashay waxa la yiraahdaa dadku هذا عكاك ما لا مقلي مكا marka ها وانا وهيدي markaan soo galo live bay nagu waalanayaan marka anigu waxaan leeyahay anaku nin qabiil kala sheegtay horta yaan lagu caayna anaka ninkaasi isaga ismatala cid ma matalo wala tumaal bu matala wala gabooyin matala wala waxa leeyahay xajijlu ayuu matala oo sheeganayo ninkani isaga ismatala oo waxa weeyaan diintu de waxa la yiraahdaa shariicadu maba ogola anu maanta markaan gabar aan doonayo waxa weeyaan intaan anigu dadkeeda iyo familigeeda aanu sheegan karo anigu waxaan ahay nin cadnaana waxa la yiraahdaa waxaan ahay waa shaqaysta diinteedu waa sidaas qabiilkeedu waa sidaas weeyaan ma garato laakiin nin markuu isagu dadkiisa ka cararayo inaad waxa la yiraahdaa shariicada gurkiisu sax maaha أنا تسوي شيء لكن بيش متشرتين بنا أنا قلت كسارية ولي بقلت كوين سارية واحد شرب بلا بدن وجويه ما أنت كسر حدونتي أنت إسكت قبل هاين أي يقول لفتو هنقولي كي جويه العج هيستوى وحال يروى متشرتين كي رأي علمي رهيستي وحالنا يروى متشرتين أنا كنا دبعت نوجستين أو تذكي وحيستي بين نقلع عرين iyagina hado toolana ninkii intay istacagweyn u tumaana Iran Afrikaan bunooy yahay laptop qaraacano ay hado toolana waxa la yiraahdaa ka daba shaqeynay markaasaan kala saareen war gabooyahan caaysid waa kii qabiilkeebu ka tirsan yahay ila ninka waxa weeyaan maanta qabiilkiisa inta ataagaraysid saga shakhsiyaha ma garatay waxa arkay qaar xagga soo qoraya ma dhibaankii xunaa gunkaha yibirkii xumaayay gunkaha tumaalkii xumaayay gunkaha war adeer waxa weeyaan ninkan isagaas matala anaka mana matalo هذا ديل سينا ديل هذا قبل كفوتشي سينا كفوتشي إنك إني ترى إنك أنا وقبل لا بعد بيانو شيء وقبل لا بعد بيانو شيء وكيه رنا ها ما قرأتي أمشي ونوح الله أنا ترى نسينا يا هذا روح ويا أنت كم بدنا اسكو إلى رمضي بقى أنت تراهن ومشرتين وأمشي عيارتها إنك تشوتشي مركو كورسا هذا تقولنا قيلنا أنا تاسو ما يا رمضان يا رمضان ما هذا ما جردنكم وش أنا رمضان بلتاش وين شيء أنا اليوم قفك العقار كان باي شركان وين شيء تاني وحير وانك عشان ما جردن ما بتجينا يا قفك العقل وردت كنا جمويها أنا وما أبيني يا متجردن كنا جمويها أنا أبيني أنت العقل هذا أبيني نيك فقير كان وحبا يسن أنا هذه يعني يا ما هاي نادر أنا وحاب الله يا سناي نادر أنا نادر وحلا نادر أنا ما قلبي دواي أنا وحنا الله يا سناي أنا وحنا الله يا سناي ninkan nin soo xareysanaya oo leh ninkan anaku laga lumay ma garatay waa nin sabadiisa ka cararaya oo dadkiisii ka soo cararay adiga baritoole wuxuu ku taraya waxaan arkay qaar isaaq sheeganaya oo isaaq soo dhawaanayo waa naga lumay waxaan arkay qaar samaroon soo dhawaysanayaan ay leeyihiin way naga lumeen qaar ma jirta soo dhawaysanayaan waa naga lumeen qaar waxa la yiraahdaa hawiye ay leeyihiin way naga lumeen يا أدري إنكم ما والله نيبا ما أنت تشيلنا مايا شنو كمان ما أنا دورنا على كسر هذا
ها ما قرتي مشكلة تالا ها مشكلة تالا إن هذا بيش تمال وبيل قالية مدح بسومالي كهاين نينكي ugu sareeyay ugu darajo weynaa wuxuu ahaa nin tumaal abu ahaa waa beesha kaliya taariikhda waxa ahaayeen dad taariikhda baal dahabi kaga jireen waxa la yiraahdaa waa nimankii xabaalaha tumaalada waa taqaana berbere ku yaala waa nimankii isaaq iyo majeerteen iyo cid kasta isku tagtay ay jabisay bay ahayd ma fahamti ninkii taariikhda lahaa ee boqortooyo ahaa maanta uu yiraaho waa lumay amba waxa la yiraahdaa qabiil kale ayaan ahay amba dadkiisii uu liido inaadan waa ceeb weeyaan ma garatay waxa ogaatiin anigu waxaan leeyahay cid kasta waxa ka aniga maqlaysa weligaaba isqari weligaaba qabiil kala sheego waa lagu soo saaraya gudamiye dadku waxay suldaanka dadku hadday barteen beelo badan oo xitaa gawaya hadday barteen amba dadku hadday arkeen suldaanka 3 sano ka hor inuu ma garanaysaay jiwa muddo ku ahaa xitaa dhalinyartii beesha tumaalada inuu ku jirtay oo heer gaadheen jooji tumaal ha ku darin gawaya ka reeb ragii jiray inuu yuu leefto soo galo waliba dadku mo صح ما إن هذا روح ويان إنكو هرت إنكو هدف وضنا ما قرأتي أنا قبيل أنا أهين أنا أمشي أم بإساق أنا وحي قدرين هاي وحي قدرين وسؤال أنا سويتين له إما كان العقتني إما كأج نكن قرص وهستا حوله هستا حوليه سكدا قبوي خلي ولي الرهنا بالقبوي خلي ولي نعس كده وارتمالada kaliya haduu lacagtu haystay qarasku haysta haduu isku keen lahayo shir u sameyn lahaa waxa la yiraahdaa iskuulo u dhisi lahaa waxa la yiraahdaa u doodi lahaa tumaalada ilan wiligoodba dad maskax leh habayaalo oo wiligood waxa dad yani Soomaalida ugu sareysan bay ahaayeen dib u soo celiyo tumaalada waxay ahaayeen iyo taariikhdoodii noloshoodii inta tii laga rabay inta taa ahaa lahayd ayuu hoos u sii digay wuxuu ka cararayaa tumaalkii xumaan wuxuu ka carray ninkaasi yani wuxuu ka carraya tumaalkii xumaan kelmadda warda ma jirtay ka xumaa baa jira isaaqii xumaa baa jira kii xusuxu kula dhaqmo waa xun yahay hadaa ma dhibaan tahay oo qof xun tahay ma dhibaankii xumaa baa lagu oranaya hadaa tahay nin ma jirteen oo xun tahay waxa lagu oranaya ma jirtay ka xumaa baa lagu oranaya marka kelmadda xumaanta adiga taadu yaanay noqon mid weyn oo meel ka qabanaysa ما قرأتي لمن كان أبو مكليتي soo gaabi hadalka insha Allah aan sii noqdo أنا وهذا الكوان soo gaabinaya beesha ma jirteenay adeer anaku tolbaan waranahay dad islaam waranahay ninkana waan ogahay waxa lagu haysto waxa weeyaan sodaga waa la ixtiraam hadaba gabadhi kala carartay waa la ixtiraamayo odayga xataa lacag baa loo soo tuura hadaa lacag aanu hayn waxa la yiraahdaa hadaan hayn أفمعان بالوجي مادة. ها أم بوحال إلى هذا أضيق وحال أفمعان بالوجي أنا قعدنا وادي وجد إن هذرتي واتيلي دي سنة ما قرأتي. دوان قرصي. ما كان قرصينا واحد ترى قريه فمن جيدا سانو كسبضو. يجوا ما جاي يجوا عاية يجوا مالك سوي تاجب بنقول تشري والله تصدقوا في عبتي. تصدقوا وين أحسن باتي. مركب حوالي صدق أنا كم حلا صدق كحشوت هذا قبل دينا أكهي ستي قبل دي سبا لفرد ذا وأبهد وحالي رحمانته هدا عيديد بري هدا عيديد مالو بيدو كوك عيسى مركا عن جورجا وهدو ضب ونقض كو دقي مايو أبهد سيدا ورالي قليل هيد سيدا وحالي را احترام لهيد صور ذا سا فيسبوك وقبر لهيد وأنا حل كذا أكينتا ما يصورني أنا صورني براها بالشدة كويا. طلباتنا أضيق بلوكرين أضيق فيسبوك كبلوكرين أضيق أنا أو تاج بالله عليك هو تاجرينه هنا هو تاجرينه أنتوا صرصة صور قبل بيسبوك الواقع واصل عرينا. أنا سان والله هاي إن أنت هذا أقول تري بنيكاس. والله ودي لها والله ديار ما حصل الله والله. هو قلدية نكن هو قلدية. أنا كنت ظلم كرة عمينو أنا كنت ظلم كرة عمينو. أنا في زوجله. هذه هذا odayga xaaladiisa sheeg marka odayga muxuu ku qaldan yahay odayga in adeer waxa weeyaan markii hore haduu ninkan qabiil ka qarsaday oo markii dambena ogaatay oo gabadhiina deeska ama hersaday waxay ahaayeen inta iska yeeshid maanta haduu yahuudi halaha maanta haduu yahuudi halaha de waa ogolaan lahayd marka adeer gabooynimadeeda hanaga diidin iyo tumaanimada hanaga diidin adeer waxa la yiraahdaa wiilkan ugu hanne habaarka kada waxa la yiraahdaa gabadhaadan cid kale ma haysato adiga aabo ah wixii dhacay way dhaceen waxa la yiraahdaa cafis iyo musaamax waxa weeyaan sidaas sheekada soo gaagaabiya ma garatay
ninkanna gudoomiye maxaad ka leedahay hal su'aalaan kuu qabaa maadaama gudoomiyihii beelaha gabooyo tahay hasha su-aashan ku qaba waxay tahay garow waxa ka dhacay IT-ga dhamaadkiisii gabadh ma jeerteena waxa la siiyay nin cadaan ah oo Mareykan waliba dhibaato u soo geystay laga soo masaafriyo lagala soo cararay oo la yiri dacalasho wadanka degdeg looga soo saaray 9 sano ma garanaysa diinta islaamka haystay af Soomaaliga yara bartay gabadhaas sidii baraha bulshada u qabsatay iyo sida filimaanta looga soo duubay iyo sida loogu hambaliyay wada arkaysi maxaa wiil gabooya u diiday inuu gabadh ma jeerteena guursado marka oo loogu hambaliyay way loogu caayay baraha bulshada inaada horta xamdiye horta labada kala saar hay waxa weeyaan ninkani waa nin ajnabi waa la ogyahay hay waanu u yimi wuxuu yiri ninkaasaan ahay gabadhii saas ku guursid muus qarinde muu oran anigu waxaan ahay carab baan ahay muu oran wallahi asalkaygu waxa weeyaan waa bani fulan hay wuu yimi wuxuu ninkaasaan ahay gabadha may siinaysan amsay de sidii baa lagu siiyay axmaado afiicnaado kristana ahaado maadaama reerkiisa ay ogolaadeen khalaas laakiin kan inaadeer uu qariyay qofku markuu qariyana inaadeer waxa la yiraahdaa ma hayntay ninku la safno inaan u hilino waa xaraan waan galay kaas taawan ku qaatay laakiin ninkii beelaha jareer weyna mid kamid ahaa oo jareernimo lagu yaqaanay oo beesha hawiye ka guursaday maxaa loo gubay cunsurnimo ma Soomaali dhaxay kaas waa cunsurnimo waana ka difaacinaydi hay oo ku dajinaya salaamu calaykum gudoomiye calaykum layla farka soo taag insha Allah hay gudoomiye aad u mahadsan yahay gudoomiyaha ururka waxa weeye dulmina waa jira takoorna waa jira khaladna waa leedahay anaga beesha gabooyo haddaan nahay khaladkayga waan qaadanaynaa laakiin nin anaga saddex oo gabadh walaashiya soo xumeeyay ilmihiina ka soo qaatay mar hore anaga aan masaxnaan tuurnay ma aha inaad ma garanaysaayo imika noogu caydaan anaga baraha bulshada waa anaga marada sharafta lahayd inaad ku jijiidataan ma aha anaga ninkaasu waa nin gabooya sakoortay fiidiyoyinsan waa nin waa nin daawateen soo dhawo wala ana soo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدي والله أنا بكون سلام بقول هذا وين سو dhawo ana soo waxaan baraha bulshada waxa ku jirtay bariyahan ba aan basadix shaba wiil beelaha gabooyo ah oo ma jeerteen sheegtay magarasa sodankii qalday gabadhi si qaldan u guursado yiri qabiilkaasaan ahay markii dambe dib lagu ogaadayna odaygii aabii xanaaqay uu leeyahay isma geyno dameeraheeduna isma fuulaan ilantayda habaar ban ku ogahay asagina sidoo suldaan ah amba sandalad xambaarsan buraha bulshada si khaldan u isticmaalaya sawirradii ilantii marba beerka kaga seexanay marna waxaan ku ri lugaha sidaan hebelo ay u sawiro wax fahmi kartaa ma fahanti haddana markuu soo dhigayo aabihii dhalo uu ku teegaraynaya oo aabaha dhalay waa nin iska dhalinyaro ah oo social media ku jira maxaad ka leedahay arrimahaas aad baad mahadsan tahay boqolkiiba boqol xamdiyey barnaamij wanaagsan waad aadihinaysaa barnaamijkan laba aan u kala qaadayaa laba aan u kala qaadaya waxay tahay ninkan isqariyay goonidiisa igu dhig waliba tan saddex aan u kala qaadayaa mid waxaan yani hadii ku rooyahay hadii beesha gooyo noqoto ama beelaha Soomaaliyeed oo dhan gooniya halka ay dhig iyo odaygan iyo ninkan isqariyay waxaan ku horeynayaa horta ninkan isqariyay marka ninkan isqariyay horta marka koowaad aad buu leeyahay anigu dadka aaminsan baan ahay inayna yacnihii bini'aadmi 9 bilood ku dhashay oo ilaahay karaameeyay oo Soomaali ah oo dhaqan diig dul af diin inta ma wadaaga inayna waxba isdheerayn walow ay dadka gabooyaha lagu sheegaa ama dadka la yasaa ay ka fiican yihiin dadka kale oo dadkaaba dulmi iyo dad dhaca ama dad laaya laakiin dadkan waa dad nadiif oo caafimaad qaba oo xalaala oo dhiigooda iyo xoolahooda iyo ma garanaysaa muruqooda maala marka ninkan horta markuu isqariyay baa horta qalad ahayd isaga oo yacni beelaha gabooyo u dhashay uu yacni beel ma jeerteen ama seeno beel kale oo Soomaaliyeed waxba dheerayn nin reer 9 bilood ku dhashay uu yacni sheegtay baa horta qalad ahayd taas uu ninkan qaldamay waana qalad weyn uu galay waxaan yacni uga digayaa dhalinyarta kale ee beelaha u dhalatay ama beelaha Soomaaliyeed gabooyo u dhalatay ama beelaha kale u dhashay qofku inuu aamino inay qof horta aadamihi inuu horta wax ku dheerayn qof aadamihi inuu horta waxba ku dheerayn adiguna bini'aadmi baa tahay aniguna bini'aadmi baan adiguna waa ilaahay baa ku abuurtay bini'aadmi baa tahay anna bini'aadmi baan inta kadib adigu Soomaali baa tahay anna Soomaali baan inta kadib adigu muslim baa tahay anna muslim baan dhaqan diig dul af inta weyn wadaagnaa isku midab bayna adaa iga qurux badan adaa iga farsamay qaasan maxaa ku dheer aniga hadii adigu aan ku yeeso aniga aan kelmad ku dhaahdo ina aniga iyo istaweeya kelmad xun aad tiraado akthiri kelmad xun hadaa ku dhaahdo kelmad xun ide hadaa ku yeeso adigu iyo horta taas ka leeyahay waxaan aaminsanahay ruuxa isqariya inuu yacni isagu liita yahay taa markaa ka sii baxo isaga kaas wiilkan ama seeno suldaankan intaas horta kaga dhigaya waliba tana uu qaladkaas u galay
qalabka labaad waxay tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa qaladka ku jirta waxay tahay nin ajaanib ah oo yacnii ma garanaysaay diin dhaqan dhul af inta midna kula wadaagin oo hadduu doono diinta waxyaalo kala haysta ayaa gabadhii guursanaya sawirkiisa waa la buunbuuninaya si ay ku maanta BBC soo dhigaysay ku hore u dhacay garwe ka dhacay malaayiin ay Kenyaati Ethiopian balaayo iyo Ugandays iyo madow Amerikaan ah iyo Jarmal cadaan iyo malaayiin ay guursadeen waa la buunbuuninaya gabadhii waa maxay baa la leeyahay wiil walaalkooda ah oo Soomaaliyeed oo ma garanaysaay ama Soomaali baantu ha ahaado ama Soomaali ha ahaado dirab ku roon yahay Soomaali gaweey ha ahaado ama Soomaali kale ha yacniina waa la yasayaa taasina Soomaalidu dulli quruna ayay ku tahay wayna ku ceebaysan tahay waxaana dulmiga ay walaalahood ka galeen ama seeno gabdhahoodii waxa ka qaawinayo ajaanib ay u galeen iyagana kuwa ku dulleysan intaasina waa intaas qodobka saddexaad waxay tahay odaygan gabadha dhalay يعني مدن ولا حق بقولها مدن ولا حق بقولها مد ولا maxay tahay ninkii sukay qariyay ninkii sukay qariyay inuu u sheegay ahayd waan siin lahaa inuu yiraahdo sax bay ahayd laakiin markuu ninkii ogaaday inuu gabooye yahay inuu la soo fadhiistay media ninkan waa nin gabooye ninkan waa nin maxaya ninkan waa kana boqolkiiba boqol buu ku ceebaysan yahay waxa weeyaan uuna ku khashifmay uuna ku fashilmay waana yacni ama Umar Maxamuud baa ka baxay ama Jeerteen baa ka baxay yiraahdee dullinimo weeyaan oo iska yacni kasbaday in ilaahay waxa weeyaan ama ka baxo ama meesha doona ka baxo taasina odaygan uu ku dulaysan yahay aakhir waxaan bulshada Soomaaliyeed kaga tagaya walaal ama waqti fara badan ka cunaynin waxa weeyaan waqti casri ah joognaa qarni aad baan u salaamayna walaalkeen aad u mahadsan yahay waa wiil walaalkeen oo beelaha ogaadeen ka soo jeeda bal waxaan siinayaa qof mid kamida beelaha tumaalo gabadh ayaa siin doona haday naga qabato insha Allah gabadh walaasheena siin doona cid kastana waan soo qaban doonaa dhamaantiinba waad ka hadli doontaan si soo kala horeyseen ayaan idin soo kala qabanaya insha Allah waa yahay gabadha walaasheena inay diyaar ahayn baan jeclahay insha Allah waa yahay qofka ma siinayna Jaanis walaasheena Soomaaliyeed ayadana Jaanis siinayna waxa weeye barnaamijkan waan wadi doonaa خلطنا لبض النوع واد رأيي لقوا كيا واحد ماشي كتير سودو السلام عليكم عليكم السلام سودو واحد وراش وفي عنا هاي حدك القاعة يا بنكو صلاة يا يور وراش وفي عنها الحمد لله أرنت أنا والناس عتوا دي قلت لك سوما ها أبي أدب ولا بدي قصدي معك كلا هاي لبض قبيا خلدا أبا هاي ونين كان ودي أروح walaalay horta marka u horeysa ninka mid baan oranayaa horta ninka mid baan oranayaa odaygana mid baan oranayaa ma garataa haye horta ninka mid baan oranayaa ninku waa qaldan yahay haye midka uu ku qaldan yahay waxa weeyaan horta marka ugu horeysa anigu tan maba diidin sawiradan iyo waxaan sawiradan uu soo galiyay maxay tahay Facebook-yada ama meediyaha ama meesha la wadwado maba diidin waayo waxa weeyaan boqolaal qof oo qaaqaawan iyo boqolaal qof oo waxaan ku guuri isku haysta iyo qaar waxay doonaan sameynaayo oo iskuursanaya ama waxaan ku guuri adigu aroostay wax kasta waa la soo galiyaa meeshan ma garataa aadawe marka ma aha wax iyaga oo qura ah markaas waxa weeyaan waa wax Soomaali oo dhan baa taa sameynaysa marka anigu taa waxba ku sii dheeraan maayo walaal nin suldaan ah nin yiri beelaha daarada dhan baa suldaan waxay beeshiisi gabooye intuu ka orday baraha bulshada soo dhigaya asagoo sida u jiifa aan xaaskiisina banaanka wadaya ma waxaad ma taageersanta tafsiir aan kumiradana weyn saas leeyahay soo wadaya xaaskiisina banaanka soo dhigaya waayo ninka Soomaaliyeed naagtiisa sida banaanka u soo dhigaya intuu circadka uga seexdo ma gurigiisu jooga baraha bulshada maya walaal ta suldaanimada horta marka ugu horeysa ninkan inuu suldaan yahay iyo inaanu suldaanayn anigu waa fahmiba waayay waayo waxa weeyaan anigu iska dacayad baan u haystaa suldaanimadan waayo waxa weeyaan qof suldaan waxa la arki jiray dadka Soomaaliyeed dad dhaqan bay leeyihiin karaamay leeyihiin maxay tolay waxa weeyaan dadku inay dad suldaamada waa la yaqaanaa maanu arag suldaan sida uu dhaqmaayo marka anigu waxaan u haystay dacaayad suldaan kan iyo waxaan laga sheekeynay anigu iska dacaayad baan horta markii hore u haystay ma karataa hada way inuu alaankan inuu suldaan yahay uma qarsaniba hada way waayo qof suldaan dees waxaan ma sameeyo anigu waxaan u arkaa magac foojar uu iska sito waana dhici kartaa waa afhayeenba dadkuna soo qorayaan ama afhayeenaha ama suldaan ha haydo waa 3 sano waa sheekada laga dabay mid fiidiyoweedana in daawtay soo koob hadal anigu amar waxaan u socdaa ninkaas inantaas haduu ku guursaday wax ma jeerteen baan ahay anigu markaas aan meesha u soo gala haye
waxa weeyaan inantaan ninkaas horta haddii uu ku guursaday aabaheedna uu kaga soo doontay nin majeerteena baan ahay horta waxa weeyaan waa arrin aan waxaan kugu uriyay la qaadan karinin waana arrin qalada waxa weeyaan isagoo nin Soomaaliya qabiil Soomaali kamida ka dhashay inuu qabiil kale shaarkiisa xidho oo hablaha dadka ku guursado oo ragga kula xidido horta waa waxaan dhiciba karinin ma garatay waxaan dhicina jirin weeyaan hada way dadka maxay tolay mid kalena waan oranayaa dadkan anigu waan ku arkay xamdi waxa tahay dadka biyaha ay ka hadla meesha dadka xuquuqdooda ugu hadla ama ugu calcaday gabooyaa u hadla ee xuquuqdooda u raadiya waxa weeyaan dadka gabooyaa ah ama ay dhageysanaya ama ay dhageysan doonaan mid baan oran leeyahay dadka gabooyaa inta iyagu ama wax ka maqan yihiin ama Soomaaliba ay Soomaali wax yeelayso waxa ka badan waxa soo miidhan oo iyaga wax yeelaya ma garata waayo waxa weeyaan qabiilka markuu qofkii ahaa ka cararo ma qofkii ahaa markuu ka cararayo qof aan ahaynin maxaa uu ka sugayaa horta adigii qabiilka qofku inuu isagu qabiilkiisa ku qanacsanaado oo uu kalsooni buuxda uu ku qabo weeyaan laakiin ma aha qofku inuu isagu qabiilkiisa ka cararo ma garataa hada way dadinteena waxay sheegtay ninka ilmahaada markaas in sidoo inaad ogaataa wuxuu yahay meesha hadda odaybaa qaylinaya la leeyahay odayga waxa la dhariga karka maxaa ka keenay kuleylka ka keenay odaygu hadduu qaylinayo odaygu walaalo inantu waa inan adigoo maxay tolay ka dhashay oo kale weeyaan markaad maanta ninka soo doono ee aad maxay tolay kula xidido ee waxaan kugu uriyay aad maanta maqasho ninkaas maanta waxaan kugu uriyay shalay ka ma jeerteen kaaga soo doono shaar ma jeerteen isagoo xiran ومانتنا لو قليا نينكي وما شرتين ما هو قبوية دوال حناقة يسموه أنا وحنا كل نقطة كعنا عايزة ويا أديك قبوية دم حي ترى نينك قبوية ده كامو صوت دانا وحبا نين ما شرتنا وحكا صوت دان تبي لو وحبا معها ده وحبا دو أرك تعب وقف كينا قفر بن وحنا كقولي وحنا نقصي يعني ده مركو قف وحكا صوت دانا يوينو كده ينو كا صوت دانا يكل حد دايو ده وينو النسب كيسة يمشي كسوت كده يعدي سي ده وينو سنتي صح وينو قريب هذا ما قرأتها هذا هو صح laakiin sada waxaan waa gabadh weeyaan waa qof weeyaan dad wax ka qaalisan ma jiraan de waxa la arkay gabadh aan waxaan ku guuriyay dadkii maxay tolo qabay ama dadkii lagu la xididi lahaaba dad aan ahayn maxay tolo lagu la xidida waxaas kala de ma fiicna marka waxa weeyaan anigu odaygan qalad saari maayo waa waalid waan dareemi karaa aniga hadda inanta yiraahdo ama qof aan dhalay oo kale saas oo kale ku dhici lahaa oo maxay tolo inta reer laygaga soo doono haddana wixii reer kale isu bedel lahaayeen anigu waan maxay tolo stress baaba ku dhacay oo muraad dilaacsan yahay ma garata اوكي هاي halka igu yirastaan anigu taa waan ugu raacsanahay laakiin labadeena faaqaynana maadaama gabadhiisii marka hore loo sheegtay inuu majeerteen leeyahay uu dib ka ogaaday inuu majeerteen ahayn oo beelaha Soomaaliyeed ama beelaha Gawooye soo beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed uu ka soo jeedo isagu fikirkiisa kartay inuu isqariyo aabihi mar hadii gabadhii laga guursaday si sharaf leh ay xaalay gabadha ma guri hagaaga jirto amba nin maxaa dhaba xog hagaaga jirto gabadha amba nin hagaaga jirto aqaba calaashan amba magarasa hog hagaaga jirto hilib bisil baynu nahay sideenaba mar hadii gabadhiisii sabanimadii la dhaafiyay nin uu guursaday oo magarasa nin laaftiisa ay tahay inuu xishooro aabaha ma muuna ahayn oo inantii isugu duceeyay taas ma ahayn meesha horta qabiilkan dhagayso waliba qabiilkan Gawooyaha amba Tumaalka muxuu qabaa hadduu isagu isqariyay intaasoo qabiil oo kale oo ayaa jira oo Gawooye ah oo Tumaala ah oo cid kasta ah muxuu qabaa ma dhaho inantaydii ima qaba aftirsigeedii de nin Tumaala qababa muu hay ninkaas inuu dhaameyn hay horta xamdi maxay tole waxa weeyaan adeeray odayga maxay tole waxa weeyaan qof bini'aadan weeyaan waxaan kugu uriyay horta Gawooye iyo majeerteen waa laba reer oo Soomaali kamid ah weeyaan haddii uu ninkaas majeerteen inanta ku soo dooni lahaana waa reer Soomaali kamid ah maxay tole inantuna waa la siin lahaana u bootana lagu siiyay haddii uu Gawooye ka soo dooni lahaana waa sidaas leeg ana waqtigu iga yar yahay qof kala jaan siin doono insha Allah miyayna ahayn walaalo nana ku soo gabagabeeyay adiga xagaaga aan insha Allah soo ku sii day miyayna ahayn walaalo maadaama gabadhii hadda laga qabo nin uu guursaday gabadhiisa ninka ay jeceshahay inuu social media iyo baraha bulshada ka daayay fadeexada aabaha macana inantiisu xambaariyay ahay talabaad beelaha daarood inta Facebook sida xun u isticmaasha waa sheegaya waa dhalinyarta Facebook sida xun u isticmaasha markay ka naxayaan amba beejajka waaweyn oo daaroodka lagu soo qorayo ma garanaysaa ay Tumaal weeyaan markay gabadheeda ugu qiyaamay leeyahay wala baxsaday leeyahay qaarkood leeh ku soo galeen xaq ma aha miyeen xaq ahayn gabadhii maxaa la dhahaayay waan hayaa sawirkeeda gabadhii wiil cadaan ah waa nin cadaan oo lacag leh waa lagu faanayaa على Facebook iyo baraha bulshada lagu qabsaday
gabadhi si xumo ma garanaysaa ay aqla intuu u sawiray waad aragtaa video waad aragtaa waa arkaa gabadha jirkeedu waa qaawan yahay waa nin ajnabiya waa lagu farxsan yahay baraha bulshada ku jirta waa loo hambalyeynaya saad sheegtay BBC ka hadlaysa marka gabadha beelaha kale ajnabiga guursaday laakiin ninkan Soomaaliga ah kula dhaqanka ah kula diinka ah kula dalka ah markuu guursaday aabu waxa xanaaqsanaado waa aabu ma garanaysaa ay been loo sheegay laakiin baraha bulshada dadka Facebook ka buubuuninaya suuradii la sii ordaya ay samaya beelahayga way caayaya حق مين يقول لي سومي حق مين لهاي وين سوماليا لهاي اسكو بركينا دهان سومي هاي horta walaashay waxa weeyaan ma odayga amse dadka bilaandiga ama beela daarood ka soo jeeda ee maxay tolo sawirada qaadanaya ama maxay tolo warwareejinaya ama gruubada gelinaya ee maxay tolo sii faafinaya horta waxa weeyaan odayga anigu wax weyn kuma haysto waxa weeyaan odaygu maxaa ku guuray iska aamuso aanu midiyaha soo galin oo waa sodogo waxa ka xishooda bay ahayd hadii uu ninkan de ma garanaysaa wax ku haystana uu deeyahay uu warsu keen dhaho maxaa ka qaldan de waa maxay deynanta waad iga guursatay maxaa se la sheegay ama maxaa de wax sax uu de waxa ku guuray gaar soo wareystaan bay inuu midiya soo galo ma yahayn dadkan kale beeraha daaroodna waxa leeyahay ninkani waa nin maxay tala Soomaaliya de hablaha Soomaaliyeed maxaa ku guuray de garoowe waa loogu aroosaya dadkii beesha daarood kuwa gaalada ah hadda waa kuwaas oo midiyaha waa looga hambalyeynaya ninkana waa nin Soomaaliya sheekadana si kastaba ha u dhacdo waxaan idin oran lahaa anigu iska dhaafa waa wiil Soomaaliyeed de u hambalyeeyo waxaan ku guuray reerka idinku ka kaleeriyanine de waxa tiraahdaa in xaaladda la dejiyo mahadsan tahay waxa weeye khalqiga ninkaas ayaa noo keenay fadeexada cayda ma garanaysa dhibaatada nagu dhacaysa waxay hayd isagoo beeshiisa gabooye ku faanaya isagoo beeshiisa tumaaleed ku faanaya ayaan lahayn ama ma garanaysa sinjacayga ka socda waxa weeye waa wuxuu isagu noo soo jiiday ku wuxuu yahay وصدق كل عليكم السلام سو دو مريم سو دو والله وندوه إمام مقصد مية حمداي خدك كاي رح نسمع في الأيام مريم هاي قبل صومالية قبل وحتى هاي قبوية وحكست هاي قبل طمالة ما حد كله هاي أرنت ما أنت برا بالشدة كوشتة وحتى هاي قبل عارف فيسبوك لف صوقش ما مقشة خدك هذا قحن إن شاء الله قفك فيك كان سكسيننا خدك قحن يقولون عم تسين دون إن شاء الله سألسوك الرئيسين صوّد قرا حتى إنه ودارك إن شاء الله سألسوك الرئيسين إن شاء الله سنين سينا إن شاء الله صو الله فربنا ضدك يسوق وعلى ضدك محافظ عن يسوق يا الأفك تعرفك عن يا أنا سوق وذي أرضي يا عادي ما هبين أقول عادي ما تهدين سوق هذا ممكن سوق بنيا ما دام هذا مويل بدك قبل بدك تويل بسوق بنيا عدالتك شغال عدالتك شغال ويل بسوق بنيا بسوق بنيا ايوه الحمد خير ولا يا دوك سو jeeda beesha maamba labada beelood is haystaan anigu wala labada beelood oo is haysta midna kama soo jeedo duriyadana hay inaadeen ayaba ku kaas karbaashka maanta labada beelood maxaa kale waanu kala gar qaadaya inaadeen labada beelood oo is haysta sida imaka barnaamijkaagan ku wado alla yaa isig haye ku socod markaas ee kullu horta waynu ka dheregsanahay social media sawiro fara badan oo sidaas sheegtay jirjircadka u rogan baa ugu soo daadinay aadawey ariyaaraha haye marka xamda labadooda bas barbar socda midi waxa weeyaan iyo kullu guurku sidoo ku ansaxayo sax midna waa qabiilkan gabooyaha iyo dadkan iyaguna sheegta qabiilada kale ajiga aadawey waa isla gabooyihii iyo علشان هذا كفاهم عشان تدك قوية قرنية قبيلة كلا اسمه قرنية موجود. يا ما يعني غير كلفتي غير كلفتي جيسان كسو تشيده مكان كله الدرية هذا وين قبيل كم يدي مكان هادو يصوت دونتو قبيل كلا يشكتو قبيل كم يدا الدرية هذا وين يا إنا در محل عيا مكان يفهم مكان وقبيل كنو قوي وأنا دعدت بدر أساس وقلوان قبوية يتمالي يو عن هيبة إن هذا الوحن أنا بكون ما قرنا سنين
deena suldaanka u haysto waa intaas adeer waxaa tahay ilaahay wuxuu kaa dhaliyay isku kalsoonow ku guurso waa gabadhii labaad oo lagaga furay beentaas iyo cajid iyo qabiilkaas bajeerteen baa kamid ah waxaaskii labaad oo lagaga furo mid meeshii la joogtay la degan tahay tii labaadna maanta waa tan ilaahay idankiisa laga furay marka tii hore ayuu sidaad ii sheegtay tii hore ayuu nafsi horta ka galay nafsi waa ninkan daba socdaa aado weyn nafsiga daba socda uquba halkii lagu galay caw ku ridaaway Soomaalidu tiraahdaa Soomaad maqal aado weyn markaas isaga laftigiisu xagga diiniyan hadaynu u dhaqaaqno xamdaay hay waxa horta shayga khiyaamada la yiraahdo horta waa shay xun waanu burayaa aado weyn waxa weeye qofkani magaca reer buu sitay oo ku doonay intan hadda marka eeg qadiyada gabooyi iyo ajigaan ka saarna meesha aado weyn daaqadii fadantayna ay qaadintay see waay ana gabooyi hadii aan malab imaka hadii aan malab biyo ka ahaan kaaga iibiyo saxiidan ku taqaynana sax hadii aan malab imaka biyo ahaan kaaga iibiyo ama aan caano kaaga biyeysan ka iibiyo dabcan imaka shaygaasi uu burayaa de xaraan buu noqonayaa sax culimada iga aqoonta badan wad weydiin doontaa anigu guurka waxa ma qabaabay inaanu guur bahaynba aado weyn sax tan imaka aad lahayd markii la ogaaday inuu gabooyo yahay miyuu odaygu u daayo ka soco mar labaad buu soo fariisanaya isagoo inanta ka weydiisanaya ma guurkii hore ee dhacay ee khiyaamadu ku jirayba ansax noqonaya aado weyn ka soco taasi waxay noqonaysaa kii hore guurba inaanu ahayn bade oo inanta khiyaamo lagaga kaxaystay shaygu wax aan wixii ahayn baa markaa lagaga gatay aado weyn laakiin inaadan halkaasan hal qodob ka saddex saaraya adigoo ku socon doona barnaamijka diinta u meherinaysay ama kitaabka lagu meheriyey ninkan inuu nin majeerteena ahaa kitaabkii u meheriyey maanta markuu noqday nin gabooya isaga u meherinaya Soomaa dabcan hawa isku mid uu marka maxay isleeyihiin kitaabku waa kiyo diinta yaa laga beeshay ninka laakiin se guurkii baan markii hore aan ahayn daacad eeg shay imaka anigu markaan ku leeyahay nin waxaan ahay durriyada haddii aan anigu hawiye imaka xamdahan kugu guursado sidaas tamay waa tuug la qabtaa ii ka qaban maayo de waa tuug oo shaygi meher bay ka qaban maayo sax weey maya meher ma aha walaal anigu film aydan diinta kale xogaa waa la iga badiyaa laakiin diintan waxaan u aqaanaa meherkaas amba inantaas ma garanaysaa waayo kitaabkii ninkan ma garanaysaa inanta markii la meherinayay ninkan daarad ahaan buu kitaabku ugu meheriyay Soomaa loogu meheriyay waayo kitaab labaad miyuu jira midka meherinayay kii midgaanimada ugu meherinayay miyuu jira waa maya waxaan doorta walaalo dadna weyna dhageysanayaan oo waxayna dhageysanayaan dad badan oo 800 oo qof ku dhow hay mid horta qadiyad baad ku hadlaysaa waad qadiyad hadlaysaa imaka xamdaa inaad hay midna waxaynu ka hadlaynaa waxaan ansax ma yahay maya daguurkaas hadduu shaygu foojir yahay horta wuxuu hadduu foojir yahay ilmihii awow buu rabaa ayay buu rabaa abaryar buu rabaa eed buu rabaa ma garanaysaa istiraac buu rabaa sinjiga laguu sheegayo ama nasabka laguu sheegayo waa aabaha iyo aabihii aftiriskaagu weeyaan marka niyo arrinta waa arrin aad ma garanaysaa u adag aniga xaqayga kolley markaan ka arko ninkaan khaladka saaray maantana aan garanaysaa ku karbaashay runta markaan uu sheego waxa weeye aniga odayga waan u sheegay xayna qoraaladan soo dhigay way ku jireen aniga waxaan la socdaa odaygan la socdaa odayga waxaan la socdaa markuu rabeen loo sheegay markuu yiri aabo ninkaas qabiilka weeyaan qabiilka isma geeyna aaba joogna gabadha waxay tiri ninka waan jeclaa 3 sano intaad xabiibi iyo sultan hays ma fahamtay muraayada la iska xalkay marka sidaa daraadeed gabadha ninka waan rabaa wuxuu ahaadaba waan ku rabaa bay tiri laakiin aabihii waxa sharaftiisu ahay maadaama uu soo markii hore si sharaf leh u bixiyo fiidiyowyadiisii aan daaray inuu faraha ka qaado uu dhaho aabo ducan ku xambaariyay ee nabaday meela socota way adigu imaka xamday caruur baad leedahay inaad hada way caruurtaadaasi ilaahay ku daayay markay rooroonaadaan haddii lagaaga soo fadhiisto qabiilkii ahayn lagaaga soo fadhiisto taladuna kaa go-aysa adiga hada way ilaahay baan kugu dhaashay waa lana daawanayaaye waxa ku uri miyaad ka xanaaq lahayd sida odaygu indhuhu casaadeen bay indhuhu ku casaan lahaayeen mise waxaad oran lahayd waa caadi mar labaad oo khiyaamadii kugu dhacday baad haddana oo sii ogolan lahayd yaa inaad armay anigu khiyaamadan anigu maya khiyaamo ma ogolaadeen laakiin dulmigan anigu aqaanaa anaa la soo dulmiyo beeshii gawooyaan ka hadlaya dulmigan fahansanahay marka hore ninku iga soo doonanayo gabadhaba ma gabooya iga soo doonanayso qabiilada kale Soomaaliyeed ma aha soo ma siiyeen badee iska qaada dhiira
anigu Soomaali way haddaba Soomaali imaka tumaalo haddaba tumaalaha iyo gabooyuhu xamdaay mid baan ku yara sheegay haddaba tumaalaha iyo waa Soomaalida sida hore maaha waa la isdhex galo waa la isqabaayo dumar badan baan ku tiri karaa imaka soo gaabi insha Allah Maryam soo qaana waa la siin lahaa inantan baan qabaayo odaygu indhuhu wuxuu la casaaday reer ahaan maahe khiyaamo ku dhacday buu la casaaday iyo inantiisiyo sidii ay baag qaada tahay kolba la iska jarayo aroos dhexdiisa okay waan kugu raacay taas odaygu waa laga khaldan yahay taana khaladkiisa waa anagu laakiin baraha bulshada beeraha maanta Soomaaliyeed waliba beeraha ma jeerteen Facebookida si xun u isticmaalaya sawirada ninka inta xun ma jeerteen oo dhammaa inta xun baraha bulshada soo dhigay soo beelay gabay ku caaysa iyagana maxay taasna dhinac kale inuu qaadeen taasna dhinac horta dhinac kale inuu taasna ka arkaynaayo dadka warxumo tashiilka ayaa faraha bad Idris Elba may ka hadlaan intay inin islaama ay daba socdaan oo Soomaaliya deegaankiisa oo inantooda qaawiyay nin cadaan ah nin madow ah oo magarasa isku soo wato beeraha marka aniga waa baan ku waxaan leeyahay ragga ma jeerteena waxaan leeyahay inay iyagana laftigooda joojiyaan insha Allah ilaahay idinkiisa aan ku salaamaya waa ka qaadayna ayo waayahay maqnina Maryam qaba insha Allah Maryam ka bax ku soo noqo Maryam hadii ilaahay idmo walaashay inta ka baxdid ku soo laabo Maryam cali yahay qofka ku xigan chance ka siinaya qofka saraygiisu ka hadlaya anigu ma caayayo beelaha Soomaaliyeed walaalahay jirteen waa gob bashay haday gob Soomaali gob jirto ma jirteen baa goba gabooye si sharaf leh ayuu Puntland ugu nool yahay uguna taxtaajinaya runta ma sheego kawsar dalba ayaa ku qoran kawsar dabca soo dhawaaba hayga kubsanayna adeeray dabcad weeye ana calan kubsaday waa si kale u qoray ma dalba ma soo dabca ariya muslim ilaahay qana Soomaali gurba adeegay dabca ha sax هاي ده عسير ويا وايد السلام يا عدي يا دمان أصحاب تبع هذا هو يسود هو باي ولا قال لما ده غير كيف كسر كذا أنا ولا كسر كذا غير الشيشة كل جد هاي وجبر وايد هاي هاي هو صعب ما حد كلاه نهرت وايد أنا فكر أبا يغطى كحل هذا وين صح وصعب ما يلا صعتا أتكلم ما مغليو هلو Go ahead, ugu soco. Hello. Adigan ku sugaya Kawsaray. Ma la socota? waa ku maqlayaa inuu 2 kun iyo u saaray ma arkayay waxa la istaa karbaashna waan ku soo qoray siyaasadeey maanta beelaha daarood bay caayaysa xamdi haram cale daarood waa walaalahay waa garbahaygi saaq waa walaalahay hawiye waa walaalahay jareer weyne waa walaalahay haween walaalahay ciidan caayaya ma jiro nin dulmi ah oo dulmi walaashi u geystay oo ilmihiisii hooyadii kala dayacay u caayi maayo beela sharaf leh ku soco واساسي كسر هات كاكا قوي هم كسر نقطة هات كاكا قوي موبايل كاكا قدامي هلو هات كاكا قوي كيكا صدقوا خالد بولاي هاي ويلكم خالد بولاي هاي
waxba kaama maqlayna dadku soo qoraya wiilku khalad buu leeyahay oo khaladka dhan asaga hooyaaba midka waa leeyahay iyo kiisa asaga oo u hooyaaba sababtuna waxay tahay asaga ayaa nasabkiisa ka guuray oo sheegtay nasab kale oo uusan ka dhalanin waa haddii ay sidaas xaqiiqad tahay hada way sax odaguna khalad buu leeyahay oo gabadha haduubkii oo saddex oo gabadha laga guursaday oo xataa ninka ha isku xumaadaan taani uu khalad ku saaray dhammaan beesha ka kalanayba baraha media uu soo dhigay wixii asaga wiilka saddex u ahaayeen ay ku wada hadleen taasuu ku qaldan yahay laakiin khalad kale oo uu leeyahay daanu uma jeedo waxa ku saartay mid aan leedahay dhalinyarada arooda Facebook isticmaalka dawr xumata shilka iyo dadka buuqaay cid walba way ku jiraan sida anaga beeshkeega loo sugayay xalay toole ilaa maanta lahaa maxaa la ka leeyihiin beelaha gawaaya arrintaas beela waaweyn sorry beeshes waaweyn oo beelaha daarood leeyihiin ayay ka socotay sheekadan oo kale sawirada lagu waday aflagaadadu lagu socotay laakiin anagu goob baan nahay goobtii Soomaali baan nahay ma ay tamayno qabiil Soomaaliyeed dacaymayno runtaan ka hadalnaa okay waxa weeyaan waa wixii la rabaa la soo qorayay wixii la rabaa la yeelayay laakiin dad oo ma aanay karo sababtuna waxay tahay dadka waa warxumata shilka iyo caayda iyo aflagaadada dadka wadana waxa ka badan inta wanaagsan ee jamaal haysatay ee jamaal caayaysay anigu aan kamid ahay barafalkayga hadii aad gashada dib u eegtay jamaal aniga dad buu xiga hadana waan eedaynaya waxa uu ku dhaqmay wax qurux badan ila ma ahayn qalad iyo gaf bay ilaahay so lama oran karo dhalinyaradaas asaas samaysay ee waxa la oran karaa dadka inta kun baa samaysay yaa istaahil ku yahay in waxa ku soo haray علي حكي كلا كوسو علي علي حكي كلا أنا ما كان علي حكي ما لما أهان ومكتين يقولون وعلي حكي كلا يقولون واحد هاي محمد حكي كلا وصاري أبوي كل إنه تمالي هاي هذا كله تمالي هاي وسعلي حكي كلا هاي دينه علي حكي كلا كوكب خلط بيا هاي تاسنا واحد عدين كرايلاي هذا إنه يقولك علي حكي كلا هاي يا إنس علي حكي كلا هاي وباشا علي حكي كلا يا باشا كمال عد كلا عدين كرت مرة هانتو مالا أوران كلا ويلك يجي وعنقة علي حكي كلا أنا وحي أوران كلا وعنقة waan daawanayay waa la socday barnaamijka waa la socday waa daawanayay fiidiyoogii ma daawatay xilliga soo istaagan dhaxeen annaga maanta inaan kala gurgurno beesha calashan beeshii tumaaladii beeshii cali xijile calashan la isleeyahay waa dad isku mid ah amba maxaa la dhahaaye Facebook baa la jabsadee sanadka waxay mid qabiil la jabsado waa nin tumaalaato nin gabooyaa tahay reerkaaga ku eeko cali xijile matid nimana badashid suldaana nomatid afayana nomatid marka dhahaaye nin kastuu fiidiyo xagga dambe ka xumaaday beeshishkii ku jiraan ku sheer gareyn ma daawatay ka بين فيديو واسف عن ما داوني هذا باش تمال إليه ومالت هاي علي حكيت لما تهد إذا جايس هذا إليهن قلت ما أي كوسب ما كان تقول سعودي شال كاب عاب نقلي هاي قف كيتونا يا إنه وقاعد باش يحكي لي أصلا هذا شيء وكسر هذا شيء أرنت سلطانك نفسه والكيس اللي بيسوي رجستي ليه أنا سلطان إنه متى أخينا إنه متى ما قرنا سايب قبيل كي أنا هالشيء نيجي هاي باش كي إن شاء الله صوت هو مري أنا صوت هو هذه هو كهذا اللي يعرف قبيلها جوي كاش الطمالد واللي بقى جباد أنا أبو شعلهان احترامه صوت هو ترى بشدة معك waan dhawahay xamdiye aadan ku salaama waa maqlay barnaamijkaaga waan la socday aniga horta labada hadayna يا لدينا قبل way soo qaabisay وين انت كليا شرف لي عيش يكره كلنا هنا ما يسقط نادي كوسع معك كلنا كربات منك اين غيرك يا تمالك تركيزو أنا دقيسين هذا معان تهرت وحن أد سارة ويل كان سارة ويل كان هذا كيجي أضيق أد ملها
waxaan jeclaan lahaa tumaal kastoo isqariyana in banaanka saas loo keeno oo karbaashka lagu rido isagaa lacagtiisa meel cidlaa ku baabi'iyey dee oday la qalday waayo xaragaasna xarag jiro maba ahaba ma garatay ani leefaan soo galay oo isaga aan ku caynayo ma garatay lano muxuu isu qariyay waxaa laga yaabaa odayga dee haddii oo dhihi lahaa adeero qoladaas ahe gabadhaada isii mase waa la siin lahaa mase waa loo diidi lahaa ma garatay ma maanta gabooyo gabar ka waayay gabdhaha qurux badan ba iisha gabooyaa looga imaadaa dee isagaa odayga waashtay kow dhe waxaan dhihi lahaa gabadhiinana ka kaxeysta weliba xarag ugu sii dara tuug waaye qaacinka waa qalad walaalo waa qalad qof nasabadiisa ka carara oo nasabadiisa qarinaya maaragtay waa qalad wallaahi lacdim aniga maanta ma dhahay tumaala tahay u hili walaalkaaga qabriga kaligaa la geena tumaala lama geenayo ma garatay gabooyo dhan laakiinse odaygaas wiilkaas wuu qaldan yahay boqolkiiba boqol wuu qaldan yahay waa hadduu isaga tumaal yahay dee haddii xashiish la uu yahayna dee xashiish la iyo majeertaanku way isleeyihiinna dee gabadhiina isugu daaya may aniga hadde ma kari walaalo xashiish laan dhahay cali xashiish laan dhahay dee anta jooga wallahi sweden ay buuxaan hadda markaa insha allah mar sweden adi booqasho aad noogu imaadid xaafadahoodan ku geynaa ool waxay sheegteen qoladan majeerteen ay sheegteen bal majeerteen hadda yurub ay joogaana maxay iga baahan yihiin war waxa waxa quran isqarinayo waa in waxaan rabaa gabooyo dhan in la karbaasho kii edab daran oo qoladiisa ka carara waayo anaga markaan maxaan u leenahay dadka isqariya maaragtay waxaan leeyahay dee sida maryam banaanka sukaanta isu keena maxaa si idinka yaa idinka qurux badan marka walaalo qaras wuu dhammaaday waaye qabiil oo kaa nasab fiicneen qabiil oo isaga waxba aan kaa dheereen ayaad sheeganaya hadhowna waxaa lagu leeyahay tumaalkii mise waxaa lagu leeyahay kii gabooyaha mise waxaa lagu leeyahay kii oo madhibaanka ahaa waa qalad qof kastaba qabiilkiisa ha ku caanamaalo oo wuxuu isaga yahay miiska la soo istaaga waxaa laguu soo qorayaa tumaaladu waa niman majeerteena maxaad ka leedahay intaan ku dhajiyeyso majeerteen riyay ku naqdeena hurdo dheer ay ku jiraan ha soo kacaan hurdadan buwan ka soo kacay soo maartin leegsay u barbarsan yihiin hurdada xamdi ay ga soo kacsan oo biyo dheer iskaga jiro oo yaa markaan waxaan leeyahay riyada ka soo kaca insha allah maxaad ka leedahay beelaha Soomaaliyeed iyo Soomaali oo dhan baan ka hadlaynaa marka beelaha Soomaaliyeed qablahooda Soomaaliyeed ma garanaysaa raggeena gabooyaha u diidaya ragga ajnabiga ahna loogu aroosiyo loogu durbaantumayo maxaad ka leedahay taana walaalo horta taas waxaa waaye taas waxaan ka leeyahay dee Soomaali anaga waa ka dhalanay anaga dee qof dad muslimaan nahay oo Soomaali kama baxsaninin dee hadday noo diideen banaagahooda way siiyaan Jamaicaanka iyo gaalada anaga maxay noogu diidaan anagaaba isku udgoon ahee taas horta way ku qaldan yihiin aniga maanta wiilka hadduu ku raadsado gabooynimo hadduu ku raadsado oo loo diida dee kuwaas isaga iyaga ahlunaar iyaga qaldan laakiinse gabar muslim inta loo wareegto loo sheegana waxaan ahay ii sheeg reer dalala ah iyo reer diini ah iyo majeerteen ah ma soconayso waxaas waa laskaga daba imaaday markaan qof kastaba anaga hadda waxaan leenahay Soomaali wayna maadaama tahay gabar Soomaaliyeed gabar gabooya gabar tumaala qabiil labada waa inaan iyo adeerka tumaalada san u hayno reerka sheegtay waa inaan iyo adeerkii ruma xajidaha reerka raacay oo reer boosaaseedka maxaad ka leedahay arrintaas maadaama gabar tumaala tahay maxaad ka leedahay inaad u fartid reerka ay maadeerada ah oo boosaase qabiilkooda way u daba dhaqay ilma adeeradayda waxaan leeyahay qoladiin ku adkaysta nasabkiina ku adkaysta waxaad tihiin wax waad ku helaysaan oo ii sheeg adii xataa ii sheeg dawladda haddaa wax kaga weysaan dee awal beriina garaacan jirteena xoolihiina xalaasha iska cuna laakiinse waxaan idiin sheegaa qabiil dadow in waxba aan kuu tarayn kii ku dhahay in adeerkayga waa oo been kuu sheegay hadhow isagaa ku cayna soo ma ogid walaalo dadkan anaa la hadday noqoto faanna cid naga faan badan ma jirto dee maxaa helay cali samatarba waa la yaqaanaa ninkii Soomaali xereeyay buu ahaa
walaalo anaga yaaba ii sheegday anagaaba inaa faangnay horta inaa laga faana maba ahaba waayo dadan waxaa ga baahannahay ma laha dad shaqaysanaya ahay maanta abaar hadday dhacdo xitaa dad gaajo dilaysa manihin dabarooyinkeenaan garaacanaynaa markaan waxaan leeyahay soomaali hadday sidaa noogu diida gabadhoode dee waxaa waaye markaas waan dhihi karnaa soomaali ii sheegday way naga qaldan yihiin oo anagoo muslim ay wax noo diideen laakiinse wiilkan maanta ani lama safin waan kasoo horjeedaa teeda labaad soomaali waxaan leeyahay waad mahadsan tahay waa naagtii labaad oo laga kaxaysto beelaha ma garanaysaa qabiilada kale muxuu dheer tahay inaanta qabiilada kale oo qabiil intaasoo lacag ka bixinayo u dabaaldegayo maanta hadday ahaan lahayd gabadh gabooyaa ee tii hore uu carruurtu soo dhasho carruurtu uuru waa kasoo kaxaystameen umuu quureen inuu ma garanaysaa xitaa meel fiican hal suula xitaa usoo xidho ma fahamtid marka waxa weeye ninkaas hal la bahadilo suu doona ha ahaado aad baan kuu salaamaya aad iyo aad horta aniga waan ogolahay in la bahdilo wiilkaas waxaan leeyahay garaac ugu dara weliba gabadh ka fursho keliya ma ahe ma garataan haa waan ku raacsanahay laakiinse waxaan leeyahay soomaali weyn waxaan u sheegaa gabadhaha inay dad muslim yihiin oo nasab ay yihiin oo sida idinka aad u nooshin anagana aan u noolnahay oo waxba aan naga maqneen kaaba qurux badan maasha allah tabaarakallah عادي إذا كده صح. أبو سلامة يا. باي. هذا فوج على ذاك كلام سواقة. أي قلبي thank you. ما شاء الله ولا قاسيو وحكون في يا قبر كله محبة كبح صلاة وإن شاء الله محبة دعوة from بدلين ما دام بدلين شوفتهم محبة سوق من دونا إن شاء الله وفق كل حاجة عن سين دونا هدول هاي دمو واد محتي المحبة وين إن شاء الله واتسوق بسط هاي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حريق دقائق كسر حريق دقائق كوجرة. يقوم مجرى ولا معه يقوم مغلي حمي. أوكي. واحد هاي قبر صوماليات واحد هاي قبر صوماليات بينها قبوية بيش مدينة جرا. واحد شوفته قبل كا أم بوضن كا أم مقرن الدولة دبوبي. براه برشة إن بدو واحد هاي قبر مقرن ساي كهذا الشيء أم مقرن سا علشان وحصور دكتا أم بريجي ده. waxaa tahay gabadh isku sharaxaysa xildhibaannimada amba wasiir Puntland maxaad ka leedahay arrintan maanta taala baraha bulshada saad ma garanaysaa ay u aragtaa xamdi aad baan ku salaamaya abaayo adiga iyo dadka ku jiraba haddaan ka hadlo fikirkayga horta gabadhana waa la hadlayaa wiilkana waa la hadlayaa horta inuu isqariyo wiilku waxa aad tahay iyo qabiilka aad tahay hadduu qofku kugu qaadanayna inaad iska daysid baa qurux badan kow waxaba la yaab leh in uu qabiilkiisa qariyo oo qabiilka la sheegto qalad bay ani ila tahay gabadhana waxaan leeyahay waxa waa adduunyo waadkaagu soo korsaday gabadha waxaan waadkaagu soo korsaday intaa ku soo la ekaysiiyey inaad maanta ninka raacdo oo aad cidlo uga tagto qalad bay kugu tahay waxaan kaloo leeyahay gabadha ciyaal ma aha horta oo la dhihi maayo hadda gabar yar oo ma garanaysayeen caqli fiican ma laha isdhihi maayo waa qof weyn inay waxaa suubiso waadkeed ku suubiso ani kale ilama qurux badna wiilkuna marka uu doonanayo waxaa qurux badnay isagoo qabiilkiisii wata beri wuu ku furi karayaa waalidka adduunka wanaagsan u soco ninka waxaan leeyahay adiga oo qabiilka aad tahay sheegta oo gabadha weydiista ayaa qurux badnayd haddii lagu diido markaas kadib diinta waxay kuu banaynaysaa guriga ku xigay inaad ku mehersatid laakiin intaa qabiilkaa kale qarisid inaad qabiil kaleeto aad wax ku doonatid qalad bay la tahay waxaan aaminsanahay qabiil kama weyna cid kama weyna sagaal baa ku dhashay sagaal buu ku dhashay sagaal baa ku dhalatay marka waxa hooyaa ku dhashay Soomaali baa tahay isna waa Soomaali soomaalinimadaada iyo qabiilnimadaada wax ku raadso haddii aad ku weydid soomaalinimadaada ama qabiilnimadaada oo lagu takooro markaa wixii kula gudboon suubi hadduu qabiilkiisa intuu ku raadsado wax loo diidi lahaa ula baxsan lahaa maanta waa taageeri lahaa wiilka walaalkeena laakiin haddii uu qabiilkiisa intuu qariyo qabiil kale hadduu qabiilkiisa intuu qariyo qabiil kale wax ku doontay waxaan leeyahay waa bahdilaad uu horta anaga dhan baa noo geystay وقبيلكي كدغي waxaan jirin oo ka dhigay qabiil mataqaana qariyo qabiil lagu tugsado ama mataqaana dadka masaakiinta ay qabiilada ay madhibaanka beesha gabooye oo ka dhigay inaga dhan buu qalad inoo geystay dhibaan baanahay gabar gabooye abaanahay
kii igu qaadanayana alxamdulilah kii igu diidanaya rabbil caalamiin laakiin inaan qariyo qabiilkayga oo qabiil kale ku guursado ma jecli mana doonayo intaan noolahay wixii ilaahay iga dhigay baan ahay waxaan leeyahay haddaan fiiriyo horta beesha tumaalo waxay la baxeen xijiijle waxay dhaheen xijiijle daarood baana gabdhihii madhibaanka waxay leeyihiin ha guursanina oo gabar midgaana weeye ma geyno gabdhihii kaleetana haddii ay doonan lahaayeen oo qabiilkii doonaba ha ahaadee wuu isqarinayaan hadda puntland baan joogaa waxaa jirta beelo badan oo sida tumaalada qayb way ogol yihiin qaybna ma ogolo xijiijla daarood bay sheegteen iyaga laba u kala baxay qaybta xijiijlaha cidda gabooye wax ay ku darsadaan iyo waxay la wadaagaan iyo wax kala toona ma jirto xaggana ma jiraan xaggana ma jiraan dhex bay ku lumeen xaggana looma ogolo gabdhaha kuwoodina waa ka tageen xijiijla waxaan leeyahay xijiijla daarood inta sheeganaysa waxaan leeyahay qabiilkiina kusoo noqda maanta ninkoo firkaasa oo inta ilaahay la ekeysiyo ini badiyey maanta inaad qabiilkiina ka tagtaan oo qabiil kala sheegataan kolo ani ilama qurux badna ilaahay wuxuu kala dhigay waa inaad ku dhan maaha waa inan iyo adeerkii baa lii waa fare calaashan waa inan iyo adeerkii puntland aad ugu magaranaysaa ugu badan way kala baxeen oo qaybna xijiijlay sheegteen qaybna tumaalay sheegteen iyagaas kala qaybiyey qaybta xijiijlaha sheegteen waan la hadlayaa xaggana ma jiraan xaggana ma jiraan tusaale ahaan maanta dhaweyto markii puntland iyo somaliland markay isdagaalayeen puntland waxay geeyeen xoolo iyagoo sheegaya inay yihiin xijiijlo daarood kuna geeyeen beesha xijiijle xoolo ku geeyeen puntland ee kuma ay geeyeen beesha tumaalo xaggana ma jiraan oo cidima aqoonsana dowladda puntland haddii xijiijlo daarood yihiin wax ay ku leeyihiin maba jirtoba haddii xijiijlo yihiin ay daarood sheeganayaan way ka muuqan lahayn xukuumadda puntland marka xaggana ma jiraan oo xaggana ma jiraan waxa weeye meel dheerna ma jiraan meeshoodina way ka tageen waashi labada geed labada dhinacba way ka tageen gabadhaasna waxaan leeyahay maanta adoo intaa leeg dadkooda ku faana sida imika hablaha oo kale maasha allah waxa weeye beelaha tumaaleed waa dad sharaf leh waa dad walaaladeena waa dad ay ka go'an tahay maabtiyaasha rumaca eedadii macaan baa dhashay walaashay hooyada iyo aabahay dhaleen baa dhashay habaryar baan u ahay saaxiibadayba ah hablaan jecel oo meesha ku jira laakiin waxa weeye inta xun baan ka hadlaynaa inta qabiilka xun caashan qabiilkoodii aasta qabiilkaa kala sheegataan ka hadlayna ku soco maalin dhaweyto waxaa ka dhacay xamdaay maalin dhaweyto waxaa ka dhacay puntland gaar ahaan magaalada qardho aan joogo wiil tumaala oo xijiijlo daarood kuwa sheegtay wuxuu damca inuu guursado gabar madhibaana kadibna hooyadiis baa oroday hooyadiisna waa dadka xijiijlaha sheegtay hooyadiis baa oroday booliiskay wacday baa ayay gabadhaydii buu la fakanayaa gabadhaydii gabar midgaanu la fakanayaa alla ii soo qabto baa ay gaari bay ka daba qaadatay gabadha saa samaynaysa waa gabar tumaal ah xijiijlo daarood waxay u diidaysaa waa gabar madhibaana xilada baa ay midgaan buu guursanayaaye baa ay midgaan buu guursanaya halkii bay gaari ka daba qaadatay dadka marka u fahansan xijiijlo daarooda waa cali xijile waa dadka cali xijilo waa laf daaroodka waa laf majeertanka kamid ah oo sax ah taas ayaga dhexdooda ha siiyaan majeertanka dhexdooda ha iska yasaan laakiin waa kuwii markaa majeertanka ahaa mise kuwii tumaalada ahaa oo xijilaha markaa ku biiray maya kuwa tumaalada amaha waa kuwa xijiijlo daarood sheegtay way maqlaysaa ayaa ugu damca inuu guursado gabar madhibaana damca inuu guursado hooyadiis baa oroday baa ayay midgaan buu la baxsanayaaye baa ayay soo qabtoy gaari bay ka daba qaadatay wiilal bay kaxaysatay wiilkiina nabraa loo geystay gabadhiina waa laga kaxeeyey waa la kala kaxeeyey ma garata beeshii madhibaana ma ogola in ay guursadaan oo hadday damcaan cidda xijiijlo daarood sheegtay way qaylinayaan xalay ba ay midgaan buu guursanayaa ninkiina daaroodna guursamayo oo looma ogola ciddiisina wuu ka tegey ma garata markaan waxa aaminsan boosaasay u badan yihiin inta xijiijlo sheegta waxa weeye xabad way jiraan laakiin 90% waxay sheegtaan tumaalo inta badan inna way sheegtaan xijiijle kuwa xijiijlaha sheegta markay tumaalada la joogaan waa tumaal markuu ka tago oo meel kala tagana dadku la joogo oo daaroodkaana wuxuu leeyahay xijiijlo daarood baan ahay ma garan puntland dowladii puntland kama dhex muuqdaan waa dad la yaso maba ku jiraanba xubin keliya kuma laha wax yariisa xataa kuma laha jagaba iska daya xataa booliiska ciidanka booliiska xataa ma aha waxay ka qabanayaan iyo waxay ka yihiin baa jireen
marka hadday xijijla daarood yihiin way soo bixi lahaa wayna muuqan lahayd maxaa weeye macnaa iyagaa isugu wacan iyagaana isu geystay marka kole anu waxaan aaminsanahay ninkaas isqariyey oo magacayagii iyo qabiilkayagii duutiyey anaga naga mid ma aha gabadhaasna waxa leeyahay ninka reerkiisii qariyey oo qabiilkiisii qariyey lamana socono maadaama nahay dhalinyartii beesha gabooyo soo hadlaysay baraha bulshada ku jirtay la sugayay arrintaas soo faalaxeen lahayd anagu ninkaasu nama matalo baraha bulshadana laguma caayi karayo yes waad mahadsan tahay muxuu baan ku fasaxaya qofku xigan jaan siinana aad baa u mahadsan tahay shukran baana salaam calaykum magacii dumaalada lagu ciyaaray sharaf iyo cis iyo kunaga tahay walaalahayo waxa weeye waa gobtan ku faanay ahaayeen runta markan inii sheego Soomaali oo dhan ku faani lahayd kuna wada faano waad u badan yahay waa ka baxaya fiidiyowgu soo dheeraado uma tala gelin waxa weeye dad iska nacnac ma aha wada la iska daawan maayo kulli barnaamijkan waa la socoteen wixii run aanan ka hadlaa wixii run aanan soo daayaa aad ba u mahadsantihiin sawaayi geesiga dhulkiisan soo qabanaynaa geesiga jira waa beesha Tumaaleed buu ka soo jeedaa runta iyo xaqiiqda waxay tahay isaga inoo sheegi doona waana nin badan halo hay dhagti ma sara ha okay hay waxaan u maleeyaa hadda maqasha magaaladan jooga inaad argacayso mi maqasha horta midaan kuu sheegaya xamde horta dadka waan salaamayaa meesha ku jiro ma fahanti salaan kadib horta waxa in la hubsadaa wanaagsan inaad argacayso ma fahanti ninkaasi kadib waan soo ogaadnay ninkaasi nin Tumaal ma ahan dadkan ma jeerteen ah oo waasheen magacayna aysan ku dheelin ma fahanteen dadkan ma jeerteen sheegaya ama daaroodka ma fahanteen dhuuso walba oo macnaha isqariya ama laga shakiyay maxay leeyihiin Tumaal waa ma fahanteen marka meeshaan waxaan fariin uga dirayaa dadkan oo la yiraahdo ma jeerteenka waxaan rabaa inaan dadka naga bartiin anaka waxaan dad la yaqaano oo Tumaal ah oo laandheeryaal ah oo adduunka laga yaqaano qof walba oo maanta Tumaal isqari ma jiro marka alxamdulillah rabbil caalamiin dadku waa dadka ka bartiin ninkaasna ma aha nin Tumaal ah anigoo afyeenka beesha Tumaal ah ninkaas waa soo ogaaday nin Tumaal ma aha ma fahanteen ninkaas waxa laga yaabaa beelaha kale inuu yahay macquul هيا سودا وراها بشرة مرة كنت أتعرف كنت لها جوايا أنا عايز أنا جوايا من سنة حتى كمان عايز ممكن خلاصة حريت بدون جوايا كمان جوايا معه وأنا ما أنتيلا ما ترى هاي الله يكعبك أنكون شيء ما يفيري أي حمد أبا ما عند فيري ما أنكون شيء يا waxa wanaagsan inaad argacaliso waxa wanaagsan qofkii horta hadii qofku reerkiisa uu ka taga dad ninkaas qofkeena ma ahan ma fahanti laakiin waxa uu sheegaya maya fiiri maya aan ku sheego maya abay ma cid mid aan ku sheegay fiiri Tumaalku fiiri maya horta maya aan ku sheego horta ninkaas nin Tumaal ma aniga meeshan kale aniga sumahan aniga meesha aniga nin Tumaal aan ahay ma fahanti فيري أبا ميدان كل شيء بتاتا فيري ميدان كل شيء بتاتا أنا كنا ما صومرو حتى خريدا وحول بو حن أدي كوكينا ما فهمت مهمته واحد هاي قفكاس إنه يعني وحنيا سواء حول خريدا أدي كوكينا يعني مركا أنا وحن كلية هاي أنا وحن أنت ماله نكاس وحن لقى شيء ما هن نكان وارهي ركله وقبيلة قبيلة سكالة هلا الرأسه تمالة فراها لقى خالد بلا يعرفون يجوز نوصل بالتمالة الذين تمالة نيجي شرف دين قريبا ما هلا يوم فندي هيا إن هذا رجع لسه دت كان وحن ربا دت كإنه كبرتان نكاس إن تمال ما هن مي فندي ودت قبيلة كلا واي هلا برتو واي هاي أنا إذا هيسافر ونوصل نغنى يا تتك تنقهر نحكي براها بشرة كوها ويا كمارها نحكي براها كمارها نحكي براها بشرة كوها وسكها أنا خبر يا بابا واي هاي مسلح معها إن
dadka jahabaaba sidoo laalo idhagayso 3 sano ka hor ninkii baraha bulshada markaad ku jirtay oo ku yiri ka soo baxjii weel haddaan anagu tumaalanahay manhin gabooye niman waxaanu nahay cali xajilaa ayuu ninkan ka mid yahay afkaaga nooga sheegtay walaalo okay hadduu kula joogo maanta history ma dhaa mise history ma dhaa meesha degantahay oo ku saaxiib ama saaxiibtihi aan uu ku yiri ma garanaysaa waxa ninka waxa tiraahdaa sida dhaha aday ku taala okay laakiin ninkii anaga qabiilkeena diida oo ayna yasa oo hablaheena yasa ti ana hadar ma rabno hanama matalo waa hal shakhsiya qofka anaga iska faquuqna iska ernana ma matalo ku darsada reeraha kale waa dhihi kartaa laakiin dhaladkiisa wariyaa dhaga ma guuraan inna dhaladkii kama tago wuu riyooday isagoo waliba socduu riyooday ninkan fiidiyoyadiisi waan soo bandhigay meeshan aan ku jiraa ma ila socota maslaxaw 3 sano ka hor social media markaad ku jirtay ninkii intuu kula soo hadlay ku yiri anaga tumaala hadaan nahay fiidiyoyadu way duuban yihiin walaal wayna yaalaan iyo codadkii anagu hadaan tumaala nahay manihin gabooyanimada baraha bulshada ku wadid ka jooji cali xijilay nagu to adiguna tiri nin gabooyaabana gabooyan ku dhimanaya sidina aad tii weelka ka baxday barnaamijkaaga calafdoon qaaday beesh kala aad samaysatay nimankaagii ma garanaysaa walaalahaayo ma garanaysaa cali xijilo hadda maadirada rahana hadalkoodii aad qaadateen anigu ku leeyahay okay haddana waan ku soo qabanaya ku soo laabo farta soo taago dadka runta u cadee raggi baraha bulshada ka fadhiisiyo magaca gabooyo ku yiri ha ku hadli hana ku doodin weeyaan dinka nimaka ma garanaysaa suldaanka haddaad la joogtid inaad raad ka baqashid aday ku taa waxaan arkay shiino culisay oo leh jarmalku shiino culisay degan yahay oo leh ninkan waa nin cali xijila saaxiibkay waaye shil yar buu iska haysta u leeyahay ma ila socota waxaan leenahay shiino culisay oo dhaga ma guraan ninna dhalay waa nin midgaan ah waa nin tumaal ah ma fahanti marka waxa way inta isqarisa inta sharafta loo wanaagsan way ku jirtaa meesha dadku sheegaysa laakiin anagu ma sheeganayno geesiga waan ku soo qabanaya insha Allah geesiga waan ku soo qabanaya farta soo taago salaam alaykum soo dhaw عليكم السلام حمد سياتي ولال الحمد لله soo dhaw si han gabadh Soomaaliyeed gabadh beelaha Tumaaleeda maxad kala leedahay caawa waaban xanaaqsan oo madaxaasaba igu kacayba suldaanka khasaaray ma waxaan ku qabiilkiisii ka tagay beeshii Tumaaladana aad buu dhulka horta ula dhacayba arag xumadiisii waxa kaaga daran iyo sidoo magac kale u sheegtay horta muraayad mu isku fiiriyay qantiisa waaweyn bayba Tumaalada maxay ka dhigeen talabaad maxayba ku falayaanba Tumaal waxaan ku ilaahay baa qurux iyo maasha Allah ba u dhameeyay haba ahaatabe wuxuu guursanaya haba guursado muxuu hablahana been ugu sheegaya shaar uuna lahayn ugu xiranayaa aabaha markii hore siiyay la kala guddoonsaday horta wax cali xashaashle la yiraahdaaba anagu ma naqaanaba haddaan Tumaala nahnay inta goosaasa degta ayuunba cali xashaashle wax xashiishka ma jeertaanka kuwii xashiishka ay sheegteen ma jeertaanka kuwii dabada geelaga ka yaalay sheegteen xashiish ma fahantay anoo Tumaalo banaanka dago la yaqaano ina Cabdiraxmaan lay dhahaayo maxaaba xashiish iyo maraati igula soo meeraysanaya talabaad ninkan waxaan ka yaabayba waxaan kaga yaabay nidiiba waa gabooye waa Tumaal wuxuu baa saa loo sii kala wadanaa inta isqarisaaba waa Soomaali inta qabiilkooda diidayna waa Soomaali wixii xunba xawaale bay kaga dhigeen ma fahantay هذا وين dadka adigoo laan dheera sheeganaya oo isaaq iyo daarood iyo hawiye iyo cid kastaba ka soo jeeda qurbihi midgaan baad ku too sharciga ku qaadaa baasaboorka ku haysataa marka ninka hadduu isqariyay uu yiri ma garanaysaa beelahaas wax ku raadsanaya dhadhamadaas macaan dhadhamada hablahayga waan ka tagay yaa ninka hala daayo waa inantii labaad ka eriyaysan haye waa rune anigu qabiilku ka tagayba uma sheegto waayo Soomaali inta maanta isqarisa ayaa badan ma fahantay laakiin dadkan wata Tumaal buu ka tagayo cali xashiish la weeyaan bal isagii waa suldaan buu isku sheegay horta yu suldaanu yahay xamta waaba suldaan khasaare yu suldaanu yahay هذا وين سو واحد سلطان افهيم بو يهلي علي حجله سلطان كان ملا Tumaaleedu yahay haye waxaan uma horta ninkaasi nin meel Tumaal ka soo galana ma aha Tumaal Tumaal iyo namana matalo Tumaal iyo cali xashiishnana isma galo
tumaal waa niman banaankaa dega waa niman la yaqaanaa ma fahanta halgamaabaa ka dhashay magaca horta dhulka lala dhacayaba layga daayo magacaasaaba dhiigu igu kacaya caawe ta labaad waxaan kuu sheegaya ninkan kolba mid isku sheegaya isku yaryaraynaya uu intan taagan yahay uu shaar kale qabiil kalena xidhanayo horta dee qabiilka layskuma odhan ha laysku caayo ha laysku haybtaa la yidhi ha laysku garto sax ha laysku garto wuxuu yahay buu yahay inantan uu xaday uu boobay uu la tegay waa sheeka suuq waaba sheeka camal weyde inantana inan si sharaf leh loo siiyay bay ahayd uu doontay هذا وين لكن أنا غير سمع من كان إنه مركه هرا سوى طمال أها أصل كيسي هرا إنه قبيل كلا شيكتو إن أنت مقرنة سابي وقبيل كلا وقوة يديستو مركه دما إن أنت وتوحكوا آخر يحلوا عن نقل عقلة تصد بدنا دل باسبور تصي ومركه سومالي يجوا باسبور ينتي بدو شغل تعدي هنا واللي كان نيروبي من راس كان أنا كوكتو بيا مرة صور دي يقول صورتها هي إن هذا ربيع خلاص هاي حمدي أديك أكو هايستة هتقول waa calaf labadii iska heshayna qanay doontaba ha noqotay hal isguursado laakiin anigu inantan eeda saaraya waxaan inanta u saaray inantu ina yar maaha dadka leeyahay inanta yar inantu maaha waa inanta weyne maskaxda iyo caqligaba leh markay la sheekaysanaysay mee asalkiisa iyo hidihiisa iyo meeshuu galay wuxuu gudiyo wuxuu galay ay soo sheegatay iska ogaataa ila dabada suldaannimada iyo lacagta weeyaane هذا خبر طلع يا لماذا لنا ما بعد شهادة مركو لا شهادة ولا شهادة نفتح كسي بحسيت لماذا لنا ممكن العقد الأول مركو العقد بحنايي دوحوها علي حشاش لي ما تيرتاني محي محمود بوها مركي وحكولي لك لا قدومينا دواتا قبيل كيس لك لا دقدقايو لك لا وحوحينايو وحابا إيغا درنبا نعسنمديسا sidoo sawirada meesha u soo dhigdhigay u saxsaxanaya badow inuu yahay horta bartaasad ka garataa هذا وين هذا من دانو اسم شيغانيا سلطان شيغانيا افهيا شيغانيا وسيدا انت عارفين انت تاغنيا سيدا ساس عارفين انت ما صابتيفا ما سيدا وسيحانيا ما ناكي سوق وحلال هو ابهتسي انت صورتك كسقادو هذا ابيبو كسو ترغرينيا انت علشان انيغو بدغان اه انيغا هدا حيستا waxa soo khalad ma saaray xamuud ma yeelayeen baadalay inta salqoday idagayso kaniisaga isku suldaana anagana manama talo man beeshana kama soo jeedo inta ali xashaas la sheegatayna dawaa in iyadu isyasto isliiday in anaga nugu jirto ma aha in anagu naana ku dhaame argabooyo waxa way carab la yimila ali xajilole na ogaan baan u dhahay xamdi ogaan baan u dhahay magacaas aan diidayaa biyo tumaalka la isku lafaqayaba nacabahay baan وندينا كسر كذا. تمالي علي حجلة وحتى أنا جو حتى قلنا تمالي علي حجلة تمال كلانديرا. هذين لا سومالي لانديري لانجا بتراي. سوايو ما شرتين لانجا بكيس وين علي حجلة. تمالنا واللانديرا أم بقبته أم بقرطوية الجو. اسمه كلا يا مركب. أنا محاكي شيء كوكا لبا مد كندا جوجا أنتوا يلا سهل بيقولي على حاجة لينو نحن إسكدا تمال. ورمئي أنو بنان كاسن دقاتو مال بانهاي maxay ugu wataa xashiis waan la socdaa markaad baraha bulshada aan ku jira taageertid sahamto maalna ugu qoran tahay ayay ku soo weerareen waan la socdaa weerarkan lagu yiri malihina xoladaasaan waliba dhibaatada inta qurbaha joogta wada inta qaransan oo inta qurbaha waxaan ku yiri in adeer magacan ay dhulka la dhacayaan naga daayaan ninkana tumaal la maaha dadka isqarnaya daawo cudur loo waayahaya dawadoodu cudur ba meel ba looma hayo waayo waxa isqarisa in kalsooni darro haysato in iyadu isliido in iyadu isyasto naacidi waxba kuma dheera sagaal baa ku dhalatay sharaf baa leedahay aqoon baa leedahay diinta cid kaagama bariso waxaan ku yiri ma sha Allah baa tahay halka hadaad martid baan ku yiri laguma gaarayo marka maxaad isku liidaysaaba maad iscadeysatid banaanka dagtida maad waxa tahay ku faantida maad markaad qabiilkaaga sheegatid dhoosh dambe ka qosashid maxaa ku qasay cadibay hada waa ku faanaaba kalsooni baan jirin inaad aragto kalsooni baa qalutay ninka kugu jecel walaal ciidaasan ka soo jeedaay ka waran haduu yiraahdo maya sii eri wuxuu tarayay baa yara ma fahantay maantaad xabka iyo biyaha wixii lagu qaray baa meel ku taagan tumaal iyo mateerteena ismaba galaan Soomaaliyeed dad ka daaya waxaanad wadiin tumaal waa tumaal mateerteena ma naqaano xashiish lana ma naqaano ma fahantay
Soomaali wareer maya ma jeerteen dhalinyartii ma jeerteen maadaama bari bulshada in xun inaga caayso uma aflagaadeynino waa dad walaalaheen ah waa dad inala dhashay waa dad ma garanaysaa runta markaan ka hadalno Soomaalida gobolada ama maamul gobolada ay samaysatay gobolka ugu wanaagsan weeyaan Puntland runta markaan ka hadalno bulshadeena soo dhaweeya xamdiye anigu in adeertaygu nin ma jeerteen qaba Saciid Maxamuud aniga in adeertay xamdiye garowa degan ma fahantay mar aan tagay dhulkii cirka uu soo dhaweeyay horta anigu waan jecelahay ma jeerteen meeshii doonaba ha ku noolaado laakiin anigu waxaan diiday tumaal iyo waxaad isgegelinay cali xashaashle siiba cali xashaashlena cid muu soo doonana tumaalada doontay dadka oo soo isliiday aad baad u mahadsantahay walaashay maxaad sii leedahay dadka qabiilooyinka Soomaaliyeed hablaha Soomaaliyeed walaaladeen ah sideenoo kala ah dumar Soomaaliyeed oo sharaf leh ah dadka gaalada amba ajnabiga amba Jamaicanka markuu guursado u durbaantumayo BBC waraysanayso loo dabaaldegayo markuu ninka gabooyo ama ninka ma garanaysaa beesha shanaad sida jareeweyne oo kala guursadana baraha bulshada lagu caayo lagu aflagaadeynayo maxaad taana sii dhihi horta marka hore waxaan leeyahay ajnabi marka la guursadana inantu cadaan guursato waa loo riyaaqa layga shaarka adduunka waa loo dabaaldega nin Soomaaliya markuu guursado ciidan ka soo jeedana wadna gariir baaba dadkan ku dhacaba dadkan isqariyana waxaan leeyahay dadkan isqarinaya maxaan isku qarinaya marka hore cidaan ay cadaysanaya waanu cidaasan ka soo jeedaa ka waran isqaabili karaynaa waa maya sii soco walaa shaad aan qof kale leeyahay maxaa baan u xidhanayaaba man cidaan ay ku faanaa man cidaan ahay kor uga kiciya aad baad u mahadsantahay walaashay jiro joog baan ku leeyahay waxa jirtay markan xoogaa ku wareystay waxa jirtay Hargeysa mar inay ka dhacday dad kula nool calashan iskuul kula dhigtay xitaa inay sariya xaga jira adigana macluumaad ugu weyn way bay ag fadhiyeen ba iskuulkay bay ahaayeen way isqariyeen sheegteenba cidayna aynan ku nakaday ma cidiina iska sheegta waxaan afka intuu soo marayay nacaynay ku yiraahdeen man hadli karayaa macluumaad isku naxday ka waran macluumaad isku naxday way gariirto xataa ofiskaaba laga saaro leeyahay saad u weydiisaaba qabiil dadkan lix qof oo garanaya iskuulka fadhiyay baa yiri manihin anagu waxaan reerkaasan ka soo jeedna anagu waxaan reerka wala reebaana sheegan inta noolahay baan cidda ku salaamaya gabadhii ku qaali ah walaashay Sihaan aad baan ku salaamay Sihaan Cabdiraxmaan waa gabadh beelaha gabooyo beelaha Tumaaleed ka soo jeeda thank you abay ara mudasibe aad u mahadsantahay sheekhlaha amgaraas aniga baraha bulshada ugu dhow marka ka hadlayo amba dadka say iskugu dhow yihiin insha Allah waad mahadsantihiin soo wada dhawaada dhamaantiin meel kasta ku jiro waxaan soo qabanaa gabadh ما شاء الله يا أي عادي ما تيجي على الدارودية اسكالية تاني سوق قبتي هوي معه ما سوق من هوي ما ساقي ويل ما سوق قبتي يا جريروين أو جريروين أسوق البنت أرميش أسوق لا بدلا نسوق جورا كسرت بدلا سوق كوفسك كسرت مرة قار أرمي نما وناكسن باتي لكن بريح أنت مدي نيرا وهستك وعشي وهبلي رات شقيق بقيق كدقيا وأرنكو كلك حي جندا ينوب لنا جندا يا إنكو كلك حي إن شاء الله قوليستان إن الله قوليست ملك استاجوتان حداد لما تجري دمربي نولش دانتاي دقاشي مربي كايهين درجو حراني دموعديدا hadalkiyo dhawaaqaygu wuxuu yahay dhalintii dadkaygu miyaydan ka dhiibin dhibaatada dadkeeni lagu dhibaya ma xasto marna aan dhamaanay وإن سلام يا جنابا إنه قلنا إن شاء الله